السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa cabdilaahi maxamed cabdikariim waxaanan ahay maanta soo jeediyaha hadalka koowaad ka qaadan doono madasheena lagu sharaxi doono turkiga barsulaariga iyo wuxuu yahay waxaan filayaa scholarshipku wuxuu furnaa muddo 15 cisho ku dhow aanay ka badnayn marka ardayda badankoodu way ka haystaan idea scholarshipkan iyo wuxuu ka hadlayo dana haddaynu orientation yar oo dulcarar la sameyno laakiin culayska la saari doono research proposalka sida loo sameeyo iyo sidoo kale letter of intentiga hadalka koowaad anaa qaadan doona hadalka labaadna waxaa inoo qaadan doona ustaadkeena maxamed raage waxaana inoo soo khatimi doona mahad maxamuud intaana ardaydii su-aal la qabtaa way sii diyaarsan doontaa insha allahu tacaala waxaanu inta waqtigu noo saamaxo aan kofar garayn doonaa in dhammaan su-aalaha aad qabtaan laydinka jawaabo insha allahu tacaala haddaan ku bilaabo turkiya bursulary scholarship muxuu yahay marka koowaad turkiya bursulary scholarship waa scholarship fully funded ah yacni wax kasta lagaa qaabilayo meeshaad seexanayso cuntadaad cunayso jaamacadda health insurancegaaga iyo sidoo kale lagu siinayo stipend ama lacag gacanta lagaa saarayo oo lagu leeyahay yani tusaale ahaan oo kale noloshaada wixii kale dabaraad u baahan amba aad ku maareynayso ku maarayso sida tusaale ahaan oo kale imka internet oo kale haddaad u baahato haddaad yani cunto kale dibad uga baahato transportationadaadii iyo wixii kale scholarshipyada marka ugu wanaagsan ee la helo ayuu horta ku jira turkiya bursulaarigu sanad walbana waxaa soo xariista 100,000 oo arday wax ka badan oo daafaha adduunka oo dhan ah waxaana la qaataa tiro ilaa 5,000 7,000 meelaha u dhaxaysa marka waa scholarship very competitive ah waxaad u baahan tahay markaad soo gelayso inaad si fiican iskaga eegto dhammaan application criteriooyinka sidoo kalena iska eegto maxaa lagu xulan karaa si maxaa lagu diidi karaa applicationkaaga hoos u dhigi doona haddaynu ku bilowno maxaa laga rabaa horta application criteriada marka koowaad waxaynu eegi minimumka waxa ugu yara laga raba inaad xareyso haddaad markaa tahay arday bachelor soo xareysanaya associate and bachelor degree-ga waxaa laga rabaa imtixaankaaguna 70% iyo wixii ka sareeyay uu yahay dadka qaar ba waxay isweydiiyaan 70% kaasi aan u qiimeynayaan tusaale ahaan oo kale haddii A amba B amba C oo kale la isiiyo badanaa waxaa jirta qiimeyn caalami oo jirta oo eegi kartaa baan filaya sidoo kalena badanaa waxay sameeyeen iskuuladu amba dowladdu shahaadada markaad ka soo qaadato waxay ku qoraan section gooniya eedu A plus maxay u taagan tahay A normalku maxay u taagan tahay A negative maxay u taagan tahay yani darajo kasta inta percent ay u taagan tahay on average ayaa ku qoran halkaas markaa ka eeganaysaa dad markaa 70% ka hooseyso scholarshipkaaga maaha mana xariisan karaysid ka limitka kooda waxay 70% inaad ka sareyso ardayda iyagu graduate-ka ah ayaa soo xariisanaya tusaale ahaan oo kale masterta ama soo xariis ardayga masterta ka baxay soo xariisanaya PhD-da isaga waxaa laga rabaa 75% ka sareeyo marka badanaa isaga waxaa lagu qiimeeyaa jaamacadaha miqyaaska GPA-ga la yiraahdo 4-ka ah marka kaasoo kale waxaad sameynaysaa xisaab caadi ah baad sameynaysaa leedahay 4 hadday u dhiganto 100% imse tusaale ahaan oo kale u dhigmaysaa 3 point something kana haysto oo kale taasad markaa ku ogaanaysaa percentage-kaad haysato badanaa laakiin waxaa qurux badan inuu 3 ka sareeyaado 3 haddaad ka sareyso you're on the safe zone 3 haddaad ka hooseyso scholarship ma soo xariisan karaysid jaamacadaha qaar baa jira 5 ku qiimeeya kuwa ma garanayaan uu xaqiiqatan sida loogu qiimeynayo laakiin taaliftirkeedii ka soo yan kareen waxaan garanayaa laakiin GPA-ga 4kaas loo qiimeeyo marka 3 iyo wixii ka sareeya ayaa badanaa 5 rate u ah scholarship-yada age criteria isaga haddaynu ka hadalno inaad bachelor soo xariisato ugu yaraan waa inaad ka yar tahay 21 iyo wixii ka yar bay qaadanayaan marka 2015 bishii koowaad kowdeedii ka hor haddaad dhalatay scholarshipka bachelor haan kuma soo xariisan karaysid oo da'dii loogu talagalay waa iska weyntay mastertuna sidoo kale iyaduna waxa weeyaan 30 jir baa loogu talagalay PhD-da 30 jir ugu badnaan waxaa jira sidoo kale scholarshipka wuxuu ka fargarayaa research scholarships wax la yiraahdo qofka markaa research scholarship soo xariisanaya isaga waxaa looga baahan yahay inuu ka yaraado da'da 50 jirka okay research scholarshipkana badanaa waxaa xariista ardayda masterta dhamaystay iyo wixii ka sareeya okay inta haddaynu kaga gudubno criteriooyinka waxaa jira dad loo ogol yahay iyo dad aan loo ogolayn sida caadiga ah waxaa loo ogolay dhammaan dadka adduunka ku nool oo dhan marka haddaad baasaboorka Soomaaliya haysato dad baasaboorka Kenya haysato baasaboorka Ethiopia haysato dad baasaboor kasta haysato yani adduunka daafiyaysa qof kastoo ku nool unless aanu Turki ahayn baasaboorka guud Turkiga baa lagu diidaya
sidoo kale waxay qaataan dadka qalin jebinaya maanta soo bishu ma marayso January haddaad qalin jebintaadu tahay August ka hor oo shahaadadana helayso shardigaasaa ku xiran dad badan oo ku dabaqaan shahaadada haddaad helayso August ka hor oo lagu qaadanaya eligible baana u tahay shahaada scholarshipka shardigu waxa weeyaan inaad shahaadadaadu diyaar ku tahay inta aan lagu dhawaaqin iyo ku guuleystay sayaa waayay scholarshipka oo taasna waxay dhacdaa badanaa 8 August dhamaadkeeda ilaa meelaha dhexdeeda waqtigaa dad shahaadadaada haysto ama secondary ahaw amba jaamacad ahaw amba waxaad doonta ahaw scholarship eligible waa tahay imika haddaan sii haysan miyaa waxaad ku xareysan karaysaa warqad cadaynaysa inaad jaamacadda amba secondary amba meeshaad joogto waqtigaa ka hor aad dhamaynayso warqad cadayn baa lagaga baahan yahay oo sidoo kalena ay ku qoran tahay previous recordskaagi tusaalahaan oo kale arday jaamacad dhigtaan ahay jaamacad tusaalahaan oo kale waxaan ka qalinjibinayaa bisha lixaad oo kale aan ka qalinjibinayaa marka imika waxaa maraya semesterkii ugu dambeeyey 7 semester oo hore kalaan soo dhigtay 7 semester baa laga rabaa GPA-gii oo jaamacadda soo shaambadisay sidoo kale warqad cadaynaysa inaan ku jiro semesterkii ugu dambeeyey waqtigaan aan qalinjibinayo sidoo kale waxaa soo xariisan karaya scholarshipkan dadka researcherska ah iyo academicians kuusaan kusoo sheegay waxaa jira scholarship gooniyo loogu talagalay dadka researchada sameynaya okay laakiin waxaan filaya badanaa ardaydu inay interested ku tahay masterta iyo bachelorta PhD-du xataa way nagu yartaan filaya yaan illegal ahayn qofka horta Turkish passport ka haysta iyo sidoo kale dadka already jaamacad Turkish ah ka register garaysan qofkaas isaguna maaha qof applied oo heli karayo oo odhan karaya yani jaamacadda ka hadhay iyagoo fargaraya website-ka isaga laftirkiisa waad garanaysaa baan filaya Turkiya Business Scholarship hadaad ku qorto waxa kuu soo baxaya waxaad ilaashanaysaa mar walba gov.tr kaasaa official website-ka ah linkigiisuna waa kaa linkiga markaad ka gasho marka wuxuu kaa codsan doonaa waxa weeyaan yani page koowaad arkayso wuxuu kaa codsanaya inaad samaysto userka markaad samaysato waxaad gelgelinaysaa information-kaaga sida magacaaga baasaboorka waxaad baasaboor numberkaaga haddaanad baasaboor haysana national ID-gaaga waxaa qaataan ka Somaliland way qaataan ka Soomaaliya way qaataan Soomaaliya xataa waxaan filaya waxay qaataan ka codayntaan filaya in lagu lahaa inamada waxay noo cadayn doonaa xamar jooga baasaboorka codaynta waxsaasa mise kaniisa ay qaataan waxay qaadanayaan national ID Ethiopia ka Kenya way qaadanayaan yani waxa la rabaa office-kan wax cadaynaya inaad adiga tahay oo government ka soo baxay baasaboorka haddaanad imika haysan hadhowaad ka warwarisaysaa haddii scholarship ku soo baxdo sidoo kale waxaad gelgelinaysaa information sida xaafadaada halkaad ku nooshahay income-ka soo gala waxyaabaha iska basic ah feeska markaad buuxsato qaybta ugu muhiimsan ee scholarship-kan soo gaari doonaa qaybtaas oo ah intent letter okay intent letterku maxay tahay amba letter of intent labadaba soo taqaan dadka qaarna waxa u yaqaanaan motivational letter maxay tahay motivational letter maxay tahay letter of intent xawayaan waa qaybta sida caadiga ah qofka scholarship-ka soo xariista laga qiimeeyo inuu qualified u yahay inuu scholarship-kan helo iyo in kale okay letter of intent-ga waxaa laga rabaa inaad qorto ugu badnaan 3,000 oo xarfaanta markaa waxaan ka wada A B C saasa loo tirinaya 3,000 oo xaraf baa la rabaa inaad adigu si fiican oo waadixa iskugu qeexdo yaa tahay maxaad qabataa scholarship-kan maxaad soo xariistay maxaad interested ugu tahay way bay anaga noo tahay dantayada inaan ku aqbalno oo scholarship-kan ku siino maxaan kaa faa'iideynaa yani maxaad dadka kala dheer tahay qayb la rabo markaa weeyaan adigu inaad si waadixa iskaga hadasho oo si fiican 3,000 oo xaraf iyo wixii ka yar isku muujiso sidaan ku soo sheegnay waa qaybta koowaad ee ugu muhiimsan haddaad bachelor tahay iyo haddaad master tahay iyo haddaad PhD tahayba intent letterkaas ardaydan waa qaybta lagu doorto okay maxay ka kooban tahay letter of intent sida caadiga maxaa laga rabaa inaan ka koobsiyo marka waxa qurux badan inaad introduction ku furto tusaalahaan oo kale magacaaga bachelor taad dhigatay amba haddaad arday secondary aad kasoo baxday inaad cadayso salaan start with formal greeting inaad si fiican dadkan oo kale formal greeting aad ku salaanto aan ahayn assalaamu calaykum dabcan kadib waxaad bilaabaysaa inaad adigu si fiican isku introduce garayso tusaalahaan oo kale saddexdaa qaybood isku wuxuun bay ka hadlayaan tusaalahaan waxaad oranaysaa magacaygu waa Cabdillaahi Maxamed Cabdikariim kasoo baxay jaamacadda Hargeysa oo ku taala Hargeysa waxaan ahaa arday kasoo baxay faculty-ga Bachelor of Mathematics and Statistics wuxuu ahaa wax weligii bay dhiirigelin jiray maadaama uu ahaa qof xiiseeya xisaabaadka iyo saasaad marka u yar wadaysaa adigii tii iska hadlayso ayaa sidoo kale maxaad ka fargaraynaysaa fiilkii aad ka soo baxday
amba fiilkaad geli doonto hadduu interest ku leeyahay ardayda secondary badanaa saas u fiican inuu ka hadlo fiilkan kusoo socdo arday waxaan ahay waxaa xiiseynaya tusaale ahaan oo kale ayuu keena tirada magaca cabdilaahi maxamed cabdixakiim ku dhashay oo kusoo koray gobolkaas oo kale weligeeba intaan gobolkaa joogay waxaan arki jiray imka tusaale dhakhtar baan raba inaan xariisto waxaan arki jiray qaraabada iyo dadka ii dhow oo la silicsan tusaale ahaan oo kale baahiyaha aasaasiga ah caafimaad ee qof kasta xaq u tahay inuu helo taas waxay igu dhiirigelisay in aan yani great patient u qaado inaan noqdo dhakhtar saasoo kalena ka wadasa yani inaad amba patientkaad ku socoto ka hadasho amba kanaad kasoo baxday haddaad master iyo phd waxaa tahay marka adigu inaad iska yara hadasho kana yara hadasho waxaanaad dhiganayso sababta ku xiisa gelinaya aad ka hadasho yani tusaale ahaan oo kale bulshadaada inaad yara muujiso inuu faa'iido u leeyahay kusoo celinayo waayo sida caadiga dadkani waxay investment bay samaynayaan investmentka ay samaynayaan waxaa qasaba inay kaa dhex arkaan dantooda iyo danta dadkaaga iyaguna waa inay dantooda kaa dhex arkaan taa xagga dambe aynu ugu tegi doonaa waa lagu soo khatimaa badanaa sidoo kale iyaguna waa inay kaa dhex arkaan danta dadkaagina u leedahay ileen nin turkiya ma tiide soomaali baa tahay soomaalida maxaa taraysa so waxa qurux badan markaa inaad halka hore ku yara sheegto dee ilaahayna la kala beri og ay soomaalidu hore u odhan jirtay oo adiga iyo afkaagu markaa wuxuu ku jaro kadib markaad intaa si fiican adigu iskaga hadasho clearly state that you are writing to express your interest in the scholarship si fiican uga hadal scholarshipkan iyo inaad rabto iyo sababtaad u rabto oo fahanteen baan falaya su'aal ahaan oo kale markaa waxaan ahaa bachelor baan kasoo baxay master baan xariisanayaa waxaan kasoo hadlay aniga halkan ku dhashay tusaale ahaan oo kale qasamaha badan ayaa taa sheegtaa laakiin aniga xiisaha u qabo statisticska iyo mathista sababtan xiisaha ugu qabo waxyaabaha keenay iminka inaan sii raadiyo haddana master intaa markaan ka hadlay baan leeyahay haddaba waxaan gacanta kusoo dhigay scholarshipkan turkiya bursulaariga scholarshipkan oo markaan eegay markaa scholarshipkaad ka yara hadlaysaa faa'iidooyinkiisi baad ka yara hadlaysaa faa'iidooyinkiisi markaad ka hadasho dalka turkiga in yar yara amaanaysaa waxaad leedahay dee dal aan isku dhaqannahay ama isku dhaqan dhownahay dee dabcan oo waddanaad xoog isku dhaqan dhowdihiin oo markaad adigana islaam tahay waddankiina waddan islaamiya waxyaaba badan baad ka helaysaa oo aanad maanta ka hesheen waddamo kale waddanaan isku dhaqan dhownahay sidoo kalena leading ku ah marka imka tusaale qaybta mathstan ka hadlaya markaa leadingna ku ah raba inuu ku noqdo field of data science kaasoo anigu xiisa ku qabo data science oo qayb ka mid ah statisticski medicine ma raba tusaale ahaan oo kale saasoo kale aan uga hadlaya yani fiilkan aan ku hadlayo iyo siduu ugu wanaagsan yahay turkiga waa inaan isku yara xidha waayo sababtoo hadee turkigan anigu uma tegaya dalxiis waxaan u tegaya statistics waxaan u tegaya medicine waxaan u tegaya computer engineer waa haddaynay ku wanaagsan yihiin wixii haddii kale waxaan u tagaya waxa weyaan qalad weeyaan soo ma waa inaan markaa yara muujiyaa markaa scholarshipkan iyo sababta usoo apply garaynayso badanaa dadka qaar markaa waxay geliyaan calaacal badan oo allahuma salli calaa xamid san baa igu dhacday oo meeshan baan ka jabayo waxaas badanaa waxba tari mayso inaad adiguse suuq geyso oo aad qualified isku muujiso yani scholarshipkan literal waxay ku guuleystaa dad yani xaafadooda tujaar tahay yani amoodin inay tahay scholarship loogu talagalay dadka gaajoonaya oo kale waxa soo xariisanaya literally dadka adduunka dhan baa soo xariisanaya dad xaggan timaadaan baad arki doontaan waxa qurux badan inaad adiguna tiyo isliideyn aad si fiican adigu isku muujiso scholarshipkan why are you interested in why baanad u dooratay turkiya why baad scholarshipkan u dooratay intaa baanad ku dadaashaa why turkiya su-aasha xataa badanaa waxa laisku weydiiya hadhow interviewga su-aasha intaa markaad si fiican ku fargarayso waxaad uga gudbi doontaa inaad ka yara hadasho academic performancega okay labaynu kala qaadi doonaa performancega labaynu kala qaadi doonaa performancega mid waxa weeyaan academic performance midna waxa weeyaan work performance haddaad soo shaqaysay oo leedahay work experience inaad kusoo dartaa qaybtan waa muhiim welibana markaad arday master tahay waayo waxaa qurux badanaa waxaa la jecel yahay ardayda masterka qof aan imika intuu bachelor kasoo baxay imika haddana aan raadinayn master qofkaasaa badanaa la raadiya waayo de already yani why baad master durtay maxaad ugu baahatay waa inaad yani meeshii sababtaa la soma yani tusaale ahaan oo kale waan shaqeeyey waxaan rabaa experience-kayga inaan sii kordhiyo with education dabcan educationkii halkan ka helaya turkigii baan ka helaya tusaale waxaa ku wanaagsan waxay doona saas ugu xidhnaada yani waxay horta ma aha inuu iscontract garayo inuu iska soo jeedo halkan waxaan kaga hadlayaa academic performance tusaale ahaan oo kale xataa haddaan jirin wax kalood ka hadashaa waxaad ka hadli kartaa maxaad dhigatood ku fargaraysay ayaad si fiican uga hadli kartaa maxaa ku imanood rabtaa imka ku xiisa gelinaya inaad barato tusaale ahaan kale imka waxaan odhanaya waxaan dhigtay starter oo software waxaan dhigtay SPSS waxaan dhigtay R weli waxaa iga maqan inaan dhigto foundation layerkii iyo theory-gii
so I am applying for applied statistics waxaan rabaa marka in theory-gii iyo qaabadii loo abaalgelinayay laskugu xiro bachelorteeda kale xog saasoo kale odhanaya okay waa fahantay ma fil academic performance saasaa iskugu xiri karta yani waa qof kasta iyo suu iskugu xirayo isagoo yani anigan kule ilaahayna kala beri qofba sibuu iskugu xiraya qasab maaha okay academic performance markaa markuu noocaa yahay waxaa kugu xigayaa work work experience-kii okay work experience isagana waxaa odhan karaysaa tusaale ahaan oo kale iminka anigu qaybtaas aan u qoray oo kale haddaan kuu sheego waxaan kasoo shaqeeyey research nooc waayo waxay statistics ku badanaa wuxuu la tacalluqaa data in lasoo ururiyo la analyze gareeyo jawaabna hadhow laga soo saaro waxaan ka qayb galay researchkaas iyo researchkaas iyo researchka data collectionada waan ka qayb galay kuwa waan lead gareeyey kuwaan na sameeyey marka markaan ka hadlay shaqadii aan qabtay waxaan ku xidhayaa mastertan aan xariisanaya qasab weeyaan marka yani wixii aan iska sheegta maada tusaale ahaan oo kale inaan idhaahdo macalin saynis baan ahaa waxaana rabaa inaan xisaab barto yani waan sheegi karaa saan u idhaahdo laakiin waa isku xidhana tusaale kale waxay u baray inaan macalin ahaado arday dhex gala sabirku wax saas yani ma aha inaan just fact ahaan wixii u sheego xaqiiqad jirto oo yani saasaan ahaa yani they don't give a shit like waxaad ahayd adaa ahaa iyagu waxay rabaan yani waxaana tayaga siduu anfacaya adiga siduu ku anfacaya dadkaaga siduu u anfacaya mar walba waxaad ka fikirta applicationkaagan maxaa yani ka dhigay application qurux badan so researchada maadaama uu sameeyo waxaan idea ka helay waxa iyo waxa iyo waxa yani waxa weeye inaad ku xijin termiska waxaan ogaaday marka inaan baahi u qabo inaan barto kuwa ee kuwaad aragtaa waan filaysan iskugu xidhayo yani bahalada kuwaana waxaa lagu dhigtaa fiilkana dhibka soo xariisto waa qeyban rabo marka inaan iska kabo si shaqadayda ay ugu fududaato sidoo kale waxaan leeyahay intaan shaqada kusoo jiray waxaan arkay in tusaale ahaan oo kale dalkaygu u baahan yahay imika tusaale ahaan oo kale statistics inaad ogtihiin ayaan filayaa waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale waxyaaba imika ugu muhiimsan la barto since waxaa imika la marayaa age of data so waxaan leeyahay tusaale ahaan oo kale maadaama age of data la marayo bulshada say horumar u gaadha ay u baahan tahay in ay xogta realityga meesha taalinta la analyze gareeyo realityga la ogaado waxaan arkay dadkii meesha ka shaqeynaya xataa inaanay great experience saas aanay haysan so meeshii gaab badan baa ka jira oo realitygii meesha taalay iyo shaqadii la rabay in la qabto iyo dadka qualificationkooda waa kala dambeeya oon anigii ku jiro so weli waxaan rabaa inaan aniga laftarkayga horta marka waa dhiso saan dalkayga hadda u caawin kara yani marka wax walba waxaan ku dadaalayaa inaan dib ugu soo cesho letter of entity iyo applicationkayga inuu qurxiyo okay then markaas haddana waxaad ka hadlaysaa why are you a good fit sabab baanu kuu qaadanaa tusaale ahaan oo kale dadka maxaad kaga wanaagsantay badanaa imka intaa haddaad soo qortay ood sanoo kale usoo qortay already waad sheegtay why you are a good fit wadigan sheegay leh tusaale ahaan oo kale dee dadkii dalkaygiibu gaab ka jiraa gaabkiiba raba inaan buuxiyo taasi waa sabab tusaale ahaan oo kale waadigan yidhi xaafadaydiibaa tusaale ahaan oo kale xagga hore kusoo sheegtay dhakhtar baad rabtay inaad xareysto halka hore kusoo sheegtay inaad aragtay gaab fara badan oo basic needskii ah for doctors inuu jiro so I want to fill that gap like that's why I'm a good fit that's why baa loo baahan in aniga la maal gashado si aan dadkayga dib ugu soo celiyo so waxaad si fiican uga hadlaysaa scholarshipkan maxaa dadka kale ku dhiratoon ugu qaadana badanaa markaa waxaad culays ka saartaa un educational goalskaaga waxaad culays ka saaraysaa educational goalskaaga future career aspirationkaaga yani hadhow mustaqbalka maxaad rabtaa inaad noqoto ambas just dee welibana sideebay scholarshipka kaaga caawinaysa inaad ku gaadho intaas ma culays ka saari doonta sidoo kalena goalskaaga intaa ku xidh missionkaaga okay qaybtana waxa weeyaan tii horun bay la xidhiidhaa scholarshipkan say ku anfacaysaa say ku anfacayso badanaa yani waxaan qasabaa inaad soo celceliso haddaanad xagga hore kale kusoo sheegin xagga dambe kale ku sheegi karaysaa xagga hore kusoo sheegtay halka hoos karaysaa yani qasab maaha inaan formatka aan dhiga aad raacdo haddaanad soo sheegin oo kale scholarshipka soo ku anfici karaad sheegaysaa kadib waxaa muhiima inaad waqtiin samayso waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale waad ku mahadsantiin waqtigiina waad ugu fudud odhan karayso waxaan rajeynaya inaan dib kasoo wada hadalno oonu kana noqon yani inta formalitiga badanaa lagu soo gabagabeeyo letter of entity-ga allahuma salli calaa maxamed maxaa odhan jiray warqadii shaqooyinka loo xariisan jiray waa la fahmaa filayaa warqadan cv-ga la raacayo kale taa waa lagu soo khatimaa emailada qaar baa lagu soo khatimaa so professional conclusion yaroo
waqtigaaga iyo gelinta aad gelisay waqtiga inaad akhrida applicationkayga waad ku mahadsantahay. Waxaan rajeynayaa inaan waqti dambe soo wada hadli doono oona kala noqon doona xiriirkeennii ugu dambeeyey. Aad baad u mahadsantihiin. Saas oo kale yani conclusion fiican waad u samaysaa oonad just odhan tusaale ahaan adigoo kasoo hadlayay tusaale ahaan oo kale qaybtii ugu dambeysay soo maahayn see scholarship ku anfacaya adigoo leh markaa gaajadan ninka tusaale ahaan oo kale soo dabar jaraya anad aamusin yani saas oo kale lagaa rabaa. Okay, qaybta ku xigtay ugu muhiimsan waxa weeyaan waa proposal study. Okay, qaybtani waxay aad muhiim ugu tahay ardayga masterka soo xareysanaya iyo ardayga soo xareysanaya PhD-ga. waa qaybta labaad ee laga qiimeeyo labada arday badana. qaybtani simple waxaa lagaa rabaa inaad 7 su'aalood ka jawaabto. su-aasha koowaad waxa weeyaan subject of study, maxaad yani studygan maxaad ku samaynaysaa researchka. qaybtan waxaa muhiim inaad ogaato qasab maaha researchkan aad halkan ku qortay inaad hadhow markaa turkiga ictimaada samayso. just waxaad dooranaysaa subject aad si fiican uga hadli karayso xidhiidhna lale waxaanad soo xareysanayso. yani tusaale ahaan oo kale anoo iminka ah economy ka hadli maayo dee tusaale ahaan oo kale waxaan waxba iga gelino IT oo kale tusaale ahaan oo kale systemka tusaale ahaan fingerprint sidee buu ugu qasbi karaa shaqaalaha in hore u yimaado waxaas oo kale kama hadlaydo waxba igama gelin wax economy waana ka hadla. so waxaa laga rabaa simply format baan idin tusi doonaa simple oo example ah laakiin haddaynu yaro dul cararno marka hore waxaa laga rabaa horta studygaaga inaad si fiican ugu muujiso independent variableskaaga oo media laba noqon kara iyo dependent variablekaaga. sidoo kale inaad muujiso populationkaaga yani researchka inaad ka samaynaysaa. sidoo kale waxaa lagaa rabaa titlekina inuu xagga sare ka muuqdo waxaan wuxuu ka hadlaya yani. Okay, kadib waxaad ku xigsiin doontaa research questionska. hal waxaad qori kartaa research questionku markaa waa maxay maxaad ka jawaabi doontaa researchka muxuu ka jawaabi doonaa. markaa tusaale ahaan oo kale isagana waynu eegi doonaa markaa isaga 15 erey baad gaarsiin kartaa. sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa on bullet point oo waxaad odhan kartaa research questionkayga koowaad waxaa research questionkayga labaad waxaa research questionkayga saddexaadna waa waxaa. kadib waxaad ku xigsin doontaa inaad in yar ka yara hadasho problemkaaga ood analyze garayso. markaa ugu yaraan 15 erey baa lagaa rabaa ugu badnaan 300 erey ayaa lagaa rabaa kan markaa xarfaantii maaha. Okay, waxaad ku xigsin doontaa research methodkaad raaci doonto. methodisku markaa researchka la raaca aad bay u badan yihiin. dad google garayso markaba waad arki kartaa. waxa weeyaan ardaydii soo dhigtay research proposalka amba researchkiisa loo sameeyo lagu soo dhigay jaamacadahana chapter 3gii fududaa iyo sidii loo qori jiray weeyaan uma adka. kadib waxaad sheegi doontaa researchkaagan muxuu ka jawaabi doonaa. yani imka waxaad soo qoratay somaa qaybta research questions baa soo qoratay waxaa lagaa rabaa yani adiga maxay kula tahay siduu uga jawaabi yani tusaale saameynta qaad kuley waxaa soo kale weeyaan su-aashaan baadhaya. Okay, maxaad filaysaa inuu sidee noqonayo marka halkan ideadaada researchki weli maad samayn adigu waxaad is leedahay baad ka hadli doontaa. waxaad ka hadli doontaa sidoo kale qaybtan researchkan aad samaynaysaa muxuu kusoo kordhin doonaa on 3 levels. marka levelka koowaad la eegayo waxa weeyaan bulshada muxuu kusoo kordhin doonaa. sidoo kale muxuu kusoo kordhin doonaa dadka waxaad qusay sida dowladda jaacadaas uu saameyn organizationada aad ka samaysay suu saameyn ugu yeelanaya. levelka saddexaadna waxa waa researcherska research baad samaysay researcherska kaa dambeeya ma ka faa'iideen. qaybtan ugu dambeysana waxa waa qaybtii loogu dhacaa chapter 2gii literature review inaad simply soo qaado laba research oo hore 3 research oo hore ama 4 research oo hore arrinta laga sameeyay kadib aad simply u tahay research koowaad waxaa soo keenay mawduuceena ka labaadna waxaa soo keenay ka saddexaadna waxaa soo keenay variableskaas eegan isbarbar dhigeen. kadib waxaad ku soo khatimaysaa haylaawin adigu waxaad kaga duwanaanayso ama variableska duunkii hore isticmaali ama tusaale ahaan oo kale dhan aanay ka eegin baad ka eegi ama context tusaale ahaan kale ninkani wuxuu ka sameeyay context UK maraykanka oo kale ka sameeyay ingiriiska oo kale ka sameeyay india oo kale ka sameeyay anuu laakiin xagga ma ka sameynaya ka context duwan yani qaybta waa inaad yara sheegtaa marka maxay kula duwanaanayaan literature review saas qasabay. Okay, haddaynu galno qaybta example yar haddaan idinka tuso research proposalka talo ma la arkaya sida la arkaa research proposalka tusaale ahaan oo kale su-aasha koowaad sanoo kale aad si bilowga jawaabi kartaa. waxaad leedahay the impact of hard chewing waa variablekayga koowaad and high salt intake waa independent variablekayga labaad
on uncontrolled hypertension kaasi waa dependent variable-kaygi among adult men in Hargeysa Somaliland kaasina waa sample-kaygi. So waxaan eegayaa jaadka in la calaashto amba la cuno jaad iyo in qofkii qaato milix fara badan saameyntay ku yeelan karayso dhiigkarka, yani inuu qofkii dhiigkarkiisa la maamuli karin. yaan ka samaynaya researchka waxaan ka samaynaya Hargeysa Somaliland ma ka samaynaya subject sidii dhammaystiran oo qurux badan baa soo qortay wax kale lagama rabo. waxaad ugu gudbisay research question-kayga maxaa filaya inuu researchkan ka jawaabo. su-aasha koowaadaan filaya intaasoo keliya kusoo koobi karta horta waan iga sheegnay soo maha inaad hal shay oo keliya qori karto. waxaad odhan karaysaa to what extent does daily hard consumption hinder the effectiveness of blood pressure medication in Hargeysa. su-aasha kooban baad kusoo koobi kartaa. haddaad garanayso waxaad ka hadlaysana laba qodob saddex qodob afar qodob baad u kala qaadi karaysaa. tusaale waxaad odhan karaysaa heer intee leeg ayuu saameyn ku leeyahay cunista jaadku si maalinla ah inuu kor u qaado halista hypertension-ka. su-aasha labadan isku dayay inaan ka jawaaba heer intee leeg ayay saameyn ku leedahay cunista milixu si joogto ah halista qofku ku qaadi kara hypertension. su-aasha saddexaad uu ka jawaabi doono researchkan aan samaynaya waxa weeyaan saameynta cunista jaadku ay ku leedahay effectiveness-ka dawooyinka hypertension-ka se ma saameysaa shaqada dawooyinka qaadanayo dawada hypertension-kana qaadanaya dawada hypertension-ku talo hypertension ka bedejinaysa mise jaadkaa saameyn ku yeelan doono oo yani kansali doona faa'iidadii dawada. okay qaybtan waxaan ku dhimay research questionskii problemkaygi baan kadib analyze garayn doonaa. problemkii markaa waxba ka hadli mayno marka saasoo kale ad yar aragtaan Somaliland waayahan dambe waxaa laga dareemaya markaa waa inaad soo yara qaataa waxaa la odhan jiraa filayaa yani waa inaad soo xogtaa xog yani maaha inaad hadalka anus ka bilaabo. marka waxaa la tusaalaan qoladaas oo kale say sheegeen Somaliland waayahan dambe waxaa laga dareemayaa in xanuunada non communicable-ka yani kuwaan la kala qaadin sida macaanka iyo sonkorta iyo waxaasi ay soo kordhayeen. okay markaasaad soo yara hadlaysaa analyst garaynaysaa saa markaad u dhamaysa waxaad leedahay kadib research method-kaaga. okay research method saan kuusoo sheegay aad bay u badan yihiin laakiin ka ugu caansan la isticmaalo waa cross sectional iyo sidoo kale survey design. okay qaanimka waxaan isticmaalaya cross sectional hospital based study. arrintan waxaan ku samaynayaa hospital baan dadkii ka soo qaadanaya waa dadka macaanka leh dad guryahooda uguma tegi karayo. dhakhtar baan ayar tegaya qaybta hypertension-ka qaybta dhiigkarka waxaan eegaya dadkan dhiigkarka qaba halkaasaan markaa dhacdada kasoo urursanaya oo waa halkeeyo Hargeysa group hospital weliba dhakhaatiir kala tegi maayaan. markaa maxaa markii koobaad caddeeyey sambalkayga halkan ka helayo iyo research design-kaan isticmaalayo oo ah cross sectional. okay sambalkii waxaad ka jawaabaysaa yay research-kan ka samaynaysaa waxaan ka samaynayaa in qof oo nin oo keliya ka samaynaya anaa doortay waayo waxaan aaminsanahay sababta waad yeelo sheegi kartaa waa mana sheegi kartid waayo waxaan aaminsanahay in tusaale ahaan oo kale raggu badanaa qaylaan habluhu qayleen inantii xataa qaysha ima sheegisada inay qaysho marka already kama jawaabi karo. okay marka waa sambalkaygi baan saa ku sheegay. daatada see usoo ururinaya daatada saa loo soo ururinaya waxaa ugu caansan badanaa quantitative iyo mixed method. maxay ku kala duwan yihiin midna waxa weeyaan nambara kaliya lasoo ururiyaa midna waa nooca waraysiga haddaad imika waa leedahay waraysi baan qaadaya waa inaad ku dartaa kaa midna waxa weeyaan labadiiba iskugu jiraayo xoogna waan soo ururinaya nambar waraysiyana waan qaadaya so kaa waxaa la dhahaa mixed method. markaa tusaale ahaan oo kale dadkii bukaanka ahaana dhaataan kasoo ururinaya iyo xog baan kasoo ururinaya waxaan eegayaa goormuu dhiigkarkiisu kacaa goormuu degaa dawa hadduu qaato ma degaya inteebuu saasoo kale xog noocaasaan kasoo urursanaya. dhakhaatiirtiina waan u tegayaa waraysi baan kasoo qaadaya maadaama iyagana xoggaal yihiin iyagana goonaan usoo waraysanaya waa data collection methodkayga. marka waxaad ka hadlaysaa sidaad usoo ururinaysaa maxaad isticmaalaysaa tusaale halka waxa la isticmaala applicationada la isticmaala waraaqa la isticmaala waxaad isticmaali doontaa halkaasaad kaga hadli doontaa waad kusoo bandhigi doontaa iyo wuxuu yahay. okay tusaale ahaan oo kale waxaad leedahay physical measurement baan isticmaalayaa intaan soo qaato BB-gii baan ku cabiraya markaan ku cabiro haddana questionnaire-kaan gashanaya oo questionnaire-kii baan leeyahay intaasuu soo baxay yani qaabadaad u analyze garay qaabadaad xogta u ururinayso ayaad qoranaysaa kadib waxaad kusoo khatimaysaa qaybta analysis-kaaga maxaad ku analyze garaynaysaa seed u analyze garaynaysaa sida caadiga dhatooyinka waxaa lagu analyze garayaa software waxaa ugu caansan SPSS iyo Stata ugu caansan sidoo kale waxaa la isticmaali karaa Excel-ka. wayska loo analyze garayaana inferential iyo waxay u kala baxaan tan meanka iyo mode-ka iyo medium-ka kuwa la raadiyo. so marka waxaad leedahay subxaana allah saad u analyze garayn doontaad ka hadli doontaa maxaad isticmaali doontaa imika anigu waxaan isticmaali doonaa badanaa waxaa la isticmaalaa xaggan ma arko laakiin waxaa la isticmaala tusaale ahaan oo kale
simple regression oo kale la isticmaalo. waxaan leeyahay I will use simple regression method waxaanan ku isticmaali doonaa simple regression methodka SPSS-ka waxaanan cabiri doonaa saameynta markaa isku regressionka yacni waxaan ku soo saari doonaa saameynta isku leeyihiin variableskaygu maxay variableskaygu ahaayeen variableskaygu waxay sida halkan ka muuqata qaad chewing cunista qaadka iyo milixda badan ee la qaato waxay ku lahaayeen inta hypertensionka dhiigkarka okay kadib halkan waxaan kaga hadlaya maxaan filaya in researchkayga kasoo baxo already waxaan qortay Soomaa 3 su'aalood baan qortay 3 su'aalood baan ku dadaalaya xaggana anigu aragtidayda iyo waxaan isleeyahay soo baxaya aan kaga jawaabo kadib waxaan kusoo gabagabeynayaa academic su'aasha lixaad waxaan ka jawaabaya academic contribution marka imika waxaan leeyahay bulshadan aad research ka dhex samaynayso iyo sidoo anfici doonaan ka hadlaya sidoo kale waxaan ka hadlaya academically يعني researchers iyo dadka dambe isku dayi doonaan inay mawduucan research ka sameeyaan ama mawduucan mawduuc u dhow researchkiigu siduu anfici doonaa marka tusaale sidoo kale kala qaadayo society waxaas ku anfacaya academicianski waxaas ku anfacaya kadib waxaan kusoo gabagabeynayaa literature review oo tusaale ahaan oo kale waxaad leedahay researchka World Health Organization marka loo eegayo kan ninkaasi sameeyey iyo ninkaasi ku sameeyey cilmi 2020 waxaa la arkay waxaas la arkay aniga laakiin studygeyguna waxaas kaga duwanaanaya si fiican loo fahmaa filaynta waxaan filayaa intaas aanay iga eg tahay hadalku waxaan ku wareejin doonaa hadalka xidhiidhiyaheena kusoo dhowow اللهم صل على أستاذي شيخ عبد الله كاهن وحog aad muhiim ah bixisay kaa mahadcelina next waxaa u yeeraynaa ustaad ama hada umaleynaa soo dhow ustaade mr maxamed aa ku xigo أستاذ محمد راعي كوحيقة okay راعي إن شاء الله بإذن ديار سنين asalaamu calaykum waa idin salaami dhammaan inta madasha kasoo qayb gashay codkayga ma la maqlaa fiican baa lagu maqlaa ustaad ku socod ardayda dhammaan codsadayaasha ah oo sanadkan isku diyaarinayaan inay codsadaan aadaan idinku dhiirigelinaa waxaan idin leeyahay dhammaantiina guul wanaagsan aan idin rajeynaa magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan raage anigana waxaa kamid ahaa guuleystayaashii sanadkii hore guuleystay haddaan aan ka hadlo wax yar qodobka rabo inaan ka hadlo qofka sidoo ku noqon karaa top candidate ama guuleysto yani dadka kale ka duwan ama profilkiisa qofkan siduu ku qurxin karaa intaasna inaan ka hadlaa rabaa screen share ma sameynayay dhammaan yani xogteeda waa ka hadlaa uun qofka marka siduu ku guuleysan karaa siduu profilkiisa ku qurxin karaa intaas inaan ka hadlaa rabaa sidaa ogtihiin scholarshipkan criteria badanaa la fiiriyaa criteria qaar kamid ah oo asxaabteeda ka hadleen academic criteria marka laga soo tago marka waxyaabo kale waxaa jiro qofka saameynayo ama qofka caawin kara inuu qof guuleysta waxaa kamid ah marka qofka profilkiisa dadka badanaa way dhaliilsadaan pointigaas oo ah in profilkooda ay qurxiyaan keliya dadka qaar waxay umalayaan GPA inuu ardayga keliya uu badan yahay uu guuleysta ka dhigi karto marka qodobkan aad u muhiim yahay way qiimeynayaan tiimka wax qiimeynayaan aad u qiimeeyaan qodobkaas oo ah profile qof soo qurxin karaa marka profileka keliya ma inaa xogtaada magacaaga waxaas aad soo gelisid sida aragteenba portalka aragteen waxaa jirta qayb social activity la dhahayo qaybtaas waa qayb aad u muhiim ah social activity-ga aan rabo inaan si fiican uga hadlo kadib waxaa jirta sidoo kalena qayb kale oo professional exams inta badan ardaydeena Soomaaliyeed yani qaybtaas imtixaamaadkaas ma haystaan laakiin qofka haystana waxaan yani wuu fursad fiican u haystaa marka profileka ka hadlaya profileka qaybo badan u kala baxaya qaybta koowaad oo ah qofka inuu ka hadlo awardska projectska iyo maxaa lahaa certificateska uu soo helay ha kasoo helo maxaa lahaa seminar ha kasoo helo jaamacad ha ka helo shaqo yani uu ka shaqeynayo oo lagu abaalmariyey shaqaalaha ugu fiican bisha whatever awardki ay noqoto any award qofka oo haysto certificate ha noqoto haddii kale facultygaaga ha ku siiya doo rabo maxaa lahaa ardayga ugu fiican sanadkan ama top 10 ardayda geli jirin camal kamid ahaa any awardka marka wuxuu muujinaya qofkan juhdiga iyo dadaalka uu ku bixinayo maxaa lahaa socialka uu ku noolaa
marka qofka waxay ka bixinaysaa sawir ah in qofkan dadaalayo haddii awaadiil uu siiyey haddii maxaa la lahaa certificate aa haysatid haddaa seminaarka qayb gashay public speaking ha ahaado data analytic ha ahaado maxaa la lahaa any kind of certificate aa haysatid waxay muujinaysaa qofkan waxbarasho ka baxsan yacni baajkii ama masterkii ama dugsigii sare uu soo dhameeyey wax ka baxsan oo qofkan raadiyey waa qof juhdi badan waa qof wadanka markii la keenane social activitieska badan yani ay bixinayaan turkey buslary ama scholarship uu bixinayo waa qof u nugul oo ka faa'iideysan karo marka wax noocaas ay kaa muujinaysaa in social activity aad u diyaarsan yahay oo qurux badan yahay marka waxaa ardayda marka badanaa soomaaliyana ardayda badanaa way haystaan qaar haystaan ma ku baraarugsano in muhiim ay yihiin marka waxaa arkaysaa arday intaas oo certificate haysto uusan academic portalkiisa aysan kaga muuqanin marka ardayda waxaa laga rabaa in qaybtaas aad iskaga fiiriyaan sidoo kale any certificate aad soo gelisid waxay u baahan tahay description inaad ka bixisid masalan qofka wuxuu qaatay certificate oo ka qayb galay seminar ama shir descriptionka waa inaad ku qortaa marka seminaarkaas wuxuu ka hadlayay main points-ka ka hadlayay waxyaabaha kasoo faa'iiday yani description waa inaad u sameysaa warbixin yar waa inaad ka qortaa inaad certificate-ka u ingilisid muhiim maaha sidoo kalena waxay professional ahaan muujinaya qofkan in wixii oo tagay wax kasoo faa'iiday ay muujinaysaa marka ardayda waxaa kula talinaya in qodobkaas ay ku baraarugaan ardayda marka dhib kale waxaa jirto badanaa ardayda certificate-dii waa qaadanay ku dhahayaan laakiin inta badan arday oo cawanaysa arkay dhahayaan certificate ma hayno marka certificate caddeyn u haynin ama warqadii aadan haynin macquul ma noqonayso meesha inaad kusoo upload gareysidaa lagaa rabaa certificate-ka haddaad haysanin inaad qortid ma safe gareys maayo xataa portalka aan malayna inuu safe gareynin yani shahaada hebel aa qaatay shahaadadii ma hayo macquul maaha marka ardayda jaamacadaha soo dhameeyeen jaamacadaha badanaa qaar koorsooyin waxaa jiro oo maxaa la lahaa ka baxsan manhaj ka baxsanaa jiro ardayda la siiyo kuwaas oo kale soo geli seminar haddaa ka qayb gashay soo geli description ka qor description ka warbixi qaybtaas aad projecti haddaa qayb gashay haddii volunteer projects aa jiraan short term projects haddaa ka qayb gashay any projecti haddaa ka qayb gashay ayagana waa muhiimay ku yihiin sidoo kale ardayda waxaa jira masterka iyo PhD-ga arday aad u firfircoon oo maxaa la lahaa article iyo paper iyo wax daawaceen oo scopus iyo ku daawaceen muhiim waay ardayga yani waa arday elite waa ardaygaas ardayda oo in ardaydaas camal meesha ay soo geliyaan beebarada ay daawaceen scoboska cadeymihiisa iyo waxaasna ay soo geliyaan ayagana way fiican tahay marka all the way certificateska iyo award projectiga I think ani ahaan waxaa sii lahaaya academiga marka laga soo tago letter of intentigana laga soo tago iyo receipt proposalka kan waa kan dadka kala soocayo sababtoo ah qofka maxaa la lahaa wuxuu imaanaa wadan uusan weligiis imaanin bulsho uusan weligiis yani la dhaqmin dhaqan oo weligiisan soo arkin dhaqankii soomaaliyeed dhaqan ka duwan xitaa dhaqankii turki keli maahan ajaaniba waa joogto arday ajaaniba dhex galaysaa adduunyadan geeska imaadeen africa asia qaar yurub america qaaraa ka imaanayo latin america qaaraa ka imaanayo marka ardayga qaybtan waxay muujinaya in socialka oo kusoo biiri doono arday ku noolaan karo masalan magaalooyin waaweyn aa jiraan ankara istanbul ardayga hadii la geeyo oo kale any magaalo oo ardayga la geeyo siduu ardaygaas ugu baxsan karaa cariirigaas dadka badan luqadaas cusub qofka marka maxaa badbaadi karo qofka academic keliya ma badbaadi karo in qofkan jaamacadda ku fiican yahay keliya ma badbaadi karto qofka waxaa badbaadinaya marka habdhaqanka iyo socialkiisa wax ka turjumaya marka qaybtan marka waxay qofka u fududeynaysaa in loo dooro in qofkan ku noolaan karo wadanka loo soo wado nimankan scholarshipka bixinayo waxay aad iyo aad iskaga ilaaliyaan qeybahan sababta iska ilaalina waxaa ka mid ah ardayda badanaa waxaa arkaysaa arday in scholarshipka la siiyo wadanka la keeno kadib way sii wadi kari weynayaan 4 bil 5 bil qaar sanad waxaa arkaysaa wadanka dib u laabanayo oo yani scholarshipka termination ku sameynayo maxaa sababay cimiladii ha ahaato haddii ahaat bulshada ahaato haddii luqadii ahaato wixii ha ku adkaanayo marka ciyo niijaba yani ciyo wax kasta way adkaan doonaa marka koowaad anaga xataa waan ugu adkaadan qof wax ku adkaani ma jiro aniga xataa ugu adkaaday marka imaanay habeeno badanaa yani bas khaldan raacay xamara ka imaada muqdisho ka imaada bas lama raaco habeeno badan bas khaldan raacay yani waa jah wareere maantana haddan
يعني meel is dhehaysid 10 daqiiqo waa maantana soconaysaa adoo daalan was khaldan yani waa jah wareeraysaa marka koowaad laakiin ardayga inuusan niyijabin adkaysto aa laga rabaa marka arday badan waxaa arkaysaa hadda ardaya maanta baxay ani oo isku meel aadegnin wixii uu wadi kari waaye marka hadhow ardaygii inay meeshan keenaan lacag ku bixiyaan tikid ku bixiyaan caafimaad ay u sameeyeen maxaa la meel ay dejiyeen bilow lacag ay siinayeen jaamacad lacagteed ay bixiyeen ardayga inuu wadanka dib u laabto dhoo bis waa masiibo kari wadi waa ma wadi kari waa iska dhaafaa waa ka jabay yani ay way nii jebinaysaa marka waxyaabaha kale ee fiiriyaan social activity ka mid ah in ardaygan qof adkaysi badan bulshaawi ah dadka dhex galaya seminaar qayb galaya intuu orday waxay cadaynaysaa qof adkaysi badan juhdi badan dadaalayo marka sidaas waa sababta keliya qeybahan u fiiriyaan waa qeyb aad u muhiim ah in ardayda Soomaaliyeed ayna iska xijaan loo baahan yahay waxaa ku xigto volunteer activities anaga Soomaaliyeed wax free ma qabanaya aan ahnaa volunteer ana xataa waa dhihi jiray markaa wadanka aan joogay shaqo free u qabanaa laakiin wax weynay ka dhigan tahay in volunteer activities ay leedahay waxay ka caawinaya maxaa la qofka kaliya maxaa la volunteer juhdi bixinaysa dadaal bixinaysa sadaqa waay marka volunteer activities hadaa qabatay hadaa yani shahaado ka haysatid soo muuji meesha soo geli aaday kaga caawinaysaa waa wax fiican qaybta social activity intaas oo kooban yahay in qofka awaadkiisa projectiga oo yani oo diyaariyay haday ahaato thesis haday ahaato article papers oo daawacay inuu soo bandhigo certificate ininka Coursera certificate yani ininkana certificate online certificate hataa Coursera meelaha qaar Coursera iyo mid kala jiro oo certificate laga qaato any kind online certificate qasab ma ina certificate ka kusoo qaadatay ina meel oo kale hadda online xataa ka qaadatay Coursera ahaato project ahaato seminar webinar xataa hadii laga siiyey participation waxaas dhan meesha kusoo buuxiyo kusoo shuba waxay muujinayaan adkeysigiina inaad dadaaleysaan inaad yani u nugushihiin qof cilmigii oo loogu talagalay manhajkii maana wax ka badan raadinayo waxay kaa muujinaysaa tusaale aad u fiican qaybtaas waa qayb aad muhiim ah ardaydana waxaa yani kula talinayaa inaad ka qayb qaadataan sidoo kale madasha horyaal waa madal volunteer aad ka noqon karto oo dhalinyaro badan isku yimaadaan madasha naftirkeeda waa ka faa'iideysan kartaa hadhow recommendation ay ku noqon kartaa oo maxaa la ina madasha naftirkeeda aa volunteer aa ka noqotay oo dhalinyarada iyo wacyiga iyo waxaas aa ka qayb qaadatay naftirkeeda waxay noqonaysaa maxaa la lahaa points madasha naftirkeeda waxay kusiin kartaa certificate ay ku siinaysaa certificatekaas oo hadhow xataa muujinayso in bulshada dhalinyarada iyo maxaa la lahaa youth activities aad qayb qaadanaysid hadhow markaa meesha imaatid intaasoo activity markas iska daba dhacayaan waxaa la rabaa activities inaad qayb gashid inta certificate xataa ay bixiyaan scholarshipka dhalinyarada imaatay weydiiya intaasoo activity imaanaya marka waxaa laga yaabaa gobol kale inaad u aadid activity maantana waa lagu soo diraayo yani bil walba xaalad intaas activity soo daba dhacayaan marka laakiin hadaa markii hore u diyaarsaneen oo aad dhihi jirta seminar ma aadi karaa maxaa ka faa'iida yani aad dhaliilsan jirtay hadhow markaa meesha imaatidne yani projectiyadii activitida meeshan ka dhacayane ma ka faa'iideysan karaysid marka waxaa ardayda ula tagaa in dhammaan fursadahaas ay ka faa'iideystaan social activity ayaa la dhaliilsanayn daraad tiimka scholarshipka waxay qabanayaan barnaamij aan ka qayb galay anoo Soomaali ku matalayo waxyaabaha looga hadlayo waxaa waaye applicationka dhibaatada ardayda kaluma qaabka loo qiimeeyo applicationka ka hadlayeen qayb aad ay uga hadleen sababta uga hadleen waxaa waaye qofka wadanka la keen rabaa waa inuu firfircoon yahay waa inuu maxaa la dadka dhex gali karaa waa in dad waxaa la kulmaysaa dad iska yar adag la kulmaysaa xiisadaa ku adkaanaya cimilada iyadoo aad u xun yihiin qabow daran jira xiisad aadaysaa qofka inuu adag yahay asxaabta iyo fasalka waxaa galaysaa maxaa la dad America dadka yimaadeen arkaysaa Latin America Bolivia Panama meelahaas dadka yimaadeen dhammaan dadkaas qaabka u noolaan lahayd qaabka danahaaga iyo scholarshipkaaga qaabka yani xiisadaha u xaadir lahayd luqadda qaabka u bar lahayd adkeysigaaga waxaana waxaa ka turjumaysaa social activitygaaga iyo dhammaan projectiska dhici doono qaabka u qayb gali lahayd marka qaybtaas aad ay muhiim u tahay asiiba ardayda masterka iyo PhD-ga yani cudurdaar ma lahan yani qofka dugsiga sare Soomaaliga ah oo Soomaali ku nool badanaa waxaa laga ardayda dhammaanteen dugsiga sare markaa dhiganayna inaan seminar ijaanisidaas yani ku baraarugsaneen mana qayb gali jirin laakiin ardayga masterka soo apply gareynayo iyo ardayga PhD soo apply gareynayo cudurdaar ma haysto arday PhD soo apply gareynayo iyo master oo social activities oo eber yahay يعني definitely ardaygaas rajo fiican maxaa la ma lahan sababta waxa u dhahaa
arday dugsi sare dhammaan hadda loo indhaha kala furayaabo yani dugsi sare oo soo dhameeyay dugsi sare Soomaali waa la yaqaanaa 12 maadaama 12 sano la dhiganaya laakiin ardayga jaamacadda waxay leedahay project ay leedahay certificate ay leedahay waxyaabo badan ay qayb activity ay leedahay xitaa activity waxaa jira jaamacadaha qaar oo hadda Muqdisho akimaan ku arkay cultural activities ay dhacaan waxaas camal ardayga xitaa uu ka qayb qaato aad u dhiirigelinaya marka waxyaabahaas inaa soo bandhigtiin laga rabaa cudurdaan ma lihid haddaa PhD apply gareynaysid haddaa yani master apply gareynaysid cudurdaar ma kelid qaybtaas arday baajka of course يعني arday hadda soo indhafuro waa sanadkii hore iskuul qalinjibiye يعني jaamacad ma galin hadda maxaa la heerkii koo jaamacad inuu bilaabo rabaa ardaygaas camal it's okay dhammaan ardayda caalamku kala siman yahay aa is dhihi karaa laakiin arday oo bachelor soo bartay ama jaamacad soo dhameeyey ama master dhameeyo PhD rabo qaybtaas wax cudurdaar ah ma lahan marka waxaan rajeynaa inaa fahanteen wixii su'aal qaybtan ku saabsan social activitieska waa laisoo weydii karaa qaybihii kale academic qualificationka ka hadlaa hal mar academic qualificationka okay su-aashaada waa soo qor su-aashaada hor soo qor academic qualificationka waxaa ka mid ah imtixaamaad SAT imtixaamaad lahaayo imtixaan GRE GMAT imtixaamaadkaas oo imtixaamaad xisaabaad ah qaar mid waxaa jiro businesska iyo waxyaabahaas imtixaan loo galo ALS imtixaanaadkana Soomaali laguma galo IELTS aa jira laakiin imtixaanka IELTS oo kale imtixaanka GRE imtixaanka SATka ardayda professional examska haystaan shahaado ka haystaan xitaa ardayda kale ku lacag ma la siiyo monthly estimateska lama siiyo double aa la siiyaa ardaydaas waxay awood u leeyihiin inay soo xareeyaan merit scholarshipka waxaa waaye waxaa xareyn karo oon keliya dadka imtixaamaadka professional exams haystaan sida IELTS TOEFL imtixaamaadka SATka GRE GMT imtixaamaadkaas ardayda haystaan merit soo xareysan karaa merit marka waxyaabay ka faa'iidaan waxaa kamid ah inay helaan double monthly payment haddii ardayga bachelor oo ahaa oo kale 4,500 la siiya ardayda bachelorka meesha markay imaadaan 9,000 la siinaa arday saasaa ku arkay 9,000 qaato yani arday 9,000 waa ardayga PhD soo qaadan lahaa waaye oo imtixaan dhan galin yani imtixaamaadkan haysanin sida caadi PhD 9,000 waaye marka ardaygii baajkii 9,000 helaayo haddii professional exams oo haysto master haddaa tahay 6,500 waaye 6,500 kale lagu daraa yani hal mar 13,000 helaysaa bil walbo waa lacag aad u badan yani $400 ku dhow waaye marka ardayda professional exams haystaan IELTS haystaan ha kusoo upload gareeyaan meeshaas IELTS-kana I think 1 year valid waa mayna wixii ka horeeya lama aqbalayo hal sano u yaraan mise 2 sano inuu yaa jeclahay marka ardayda professional exams haystaan ayagana fursad kaloo sii fiican oo dahabi ah sii helayaan yaa lama ogaanin ardayga haysto ardayga haysan dhibaato ma lahan in ardayga oo haysto dhibaato ma lahan oo haysanin dhibaato ma lahan waa iska caadi ardayda camal caadiga iska noqonaysa laakiin ardaygii haysto yuusan iloobin inuu soo upload gareeyo professional examskana waa intaas su-aasha aan fiiriyay ardaygan soo weydiiyo qofka sanadkii hor xareystay akoona ku samaysan caadi waaye profileka update gareyn kartaa intaadan furin maxaa la lahaa scholarship intaadan apply gareynin oo aadan furin maxaa la lahaa apply aadan dhihin janis aa haysataa ku update gareyn kartid xogtaada waa update gareyn kartaa mubanid in akoon cusub aad samaystid akoonkaagii hore update waa ku samayn kartaa educationkaaga waa bedeli kartaa work experience waa bedeli kartaa professional examska haddaa haysta waa soo upload gareyn kartaa social sidoo kale work experience-ga ardayga master iyo PhD loo xareysanayo ayada naftirkeeda waa yani waxay muujinaya dhiiranaantaada iyo maxaa la lahaa sidaa u firfircooneed shaqadaada inaa shaqeyn qofka inuu shaqeeyo yani wax weyn waa qofka aa shaqeynin qof aa isku experience maaha marka inaa bulsho kale shaqada dadka aa lasoo wadaagtay qaabka aa usoo dhaqmo waxyaabana muujinaya marka qofka masterka soo apply gareynayo iyo PhD soo apply gareynayo definitely ayagana work experience waa inay soo upload gareeyaan ugu yaraan 1 sano in aa soo shaqeysay in maxaa la lahaa warqad recommendation xataa aa ka heli kartid shaqadaada in firfircoonidaadii ay muujin karaan meesha kusoo bandhigi karaan marka work experience asina sidoo kale muhiim waaye waxaan oo kale academic history-ga iyo letter of mid walba waxay leedahay yani tiro gooni ay ku qiimeynayaan sidoo kale waxaana idin sheego social activity qiimeyn la-aan ma aha pointsaa saaran marka pointskaas waxaa laga faa'iidaysto waa wax iska fudud waaye dhammaan shahaadooyin badan dad gudaha u yaalaan iskaan ka qaad print dheh soo upload garey
ما جرى حقيقة سؤالها ما لقينا من وقت اللي جاوب سؤالها letter of intent achievement معلومة ما هي letter of intent عادي لو قرأ يعني application كا فورتيد أو apply على هذه جامعاتها أدور كده باركس على letter intent أو achievement اللي موجي معها social activity كمان يدمج على letter intent su-aashan qofkan HB u qoran tahay ma fahmin maxaa ka wadaa marka gormee la hagaa marka wadanka imaado maxaa ka wadaa qofka obviously marka wadanka imaado oo elaboorka hagida laga bilaaba xataa ilaa ay meeshaada destinationka ugu dambeeya waa lagu geena waa lagu hagaa mar walbo passport wax micno ma sameynayo passportku apply garay ama niirku apply garay it doesn't matter wax micno ma sameynayo yani passport janis ma kordhiyo passport lagu yaraan u dambe waa sameysan doontaa so passportka iyo applicationka wax iskama gelin luqad luqad inaad taqaanid هذا مهم ما لكن أنا أتقن أديك في عن تهاي هذا لقد أتقن عدين أو هيست يعني ماشان لقد أقان ممكن عدين تسوقي لها هذا واحد انترفيو والجو يدينا لقداس ما عدين أنا أتقن مثلا هذا ده سواحيلي أقان وإن شهادة سواحيلي أكين سكرت دواي عماش سموجين كرت دواي لكن لقد هذا تقاني كسوقر ماشي مهم واي لقد تقان معناه ده حوالات بنا الضخم كرتها واي sababtoo markaa meesha imaatid qof Soomaali ku hadlayo waxaa laga yaabaa inaadan arkin aniga ilaa hadda 4 bil ma arkin maxaa la qof Soomaali ku hadlayo يعني soomaaliga qof inaad dad wacalay maahayn badanaa xataa qof soomaali ku hadlaya miya ag dhowo marka luqadahaas kale aad taqaanid english agsaysid caddayn aweysid ielts camal haysid it's okay good ielts waa high bonds waa ielts daa haysatid haddii luqadaha kale sa carabi wax caddayn aweysid muhiim waa soo geli cv waa liska rabaa cv naftirkiisa muhiim waaye qaybtan wuxuu kamid yahay social activity miya qaybta kamid yahay cv-ga cv muhiim waaye cv qurux badan waxaa jirto eurobus eurobus in CV ka samaystiin ayuu talnaa yani professional ahaan CV professional inaad samaysatid oo qurux badan CV aad isku dhex yaacsaneen xogaha aad soo gelinaysid masalan CV taariikhda aad ku qoraysid oo waxbarashada aad dhameeyey iyo taariikhda systemka aad ku qoray waxayna isleeyihiin arday waxaa arkaysaa CV taariikha ugu qoran intan markuu soo gelinayo taariikh kale u qoraa masalan 28 agosto camal aa u qoray inuu maxaa la jaamacad bilaabay CV-gina 1 September camal aa u qoran ama 15 September camal aa u qoran marka waxay noqonaya wax ismaan dhaafaayo xogtaada mar walbo orod ha ku xareenin barnaamijkan waqti badan haysatiin almost hadda waxaa ka dhiman 25 maalin ugu yaraan waa iska bil jaanis badan aa haystaa marka ha degdegin maxaa la barnaamij si fiican wax xaray taariikhaha iska sax CV-ga iska soo qurxi xog walba intaa ku sheegaysid xaggan kusoo sheeg CV-ga qurxi nadiif ka soo dhig waxaa nadiif ka dhigo professional exams aalad sidee loo galaa walaal aaladska wadankeena hadda Soomaali laguma galo xarun laguma galo laakiin wadanka uu soo dhawo Kenya lagu galaa Kenya Ethiopia waa lagu galaa waa imtixaan English ugu yaraan qofka 7 points keensada oo kale wax fiican waaye hadhow xataa ardayda aaladka haystaan waxay jaanis helayaan in English ay ku bartaan magaca website-ka Eurobus waa soo qoraa Eurobus CV haddaa ku qorto Google-ka waa arkaysaa instruction-ka adaa arkaya markaa samaysid buu xogaha geli ku dhahaa education information geli yani waa iska simple wax simple waa instruction meesha ku arkaysaa Eurobus markaa gashid CV qafa u samaysan lahayd adaa gelinaya hadhowna waa free waa samaysan kartaa lacag xataa makuu xujinaya work experience intaas work experience-ga ardayda PhD master haystaan meelaha ay ka shaqeeyaan ha kasoo qortaan work experience ayadoo timber leh maxaa la saxiix leh magacaaga ku xusan yahay loogada meesha ka shaqeysid everything ku xusan tahay qof yani xafiiska meesha laga xiriiri karo wax dhan contact information ku xusan yahay documentigaas soo upload gareeya description ka bixiya CV-gina kusoo qora maxaa la lahaa naftarkeeda work experience-giina ardayda masterka ala hadlaya iyo PhD work experience muhiim waaye haddaad heli kartid work experience haddaa fresh tahay it's okay jaamacad hadda dhameysay 2025 dhameysay oo 2026 soo upload gareynaysid it's okay ay naftarkooda ay fahmayaan fresh inaad tahay laakiin ardayda waxaa jiraan oo bachelor dhameeyay 2022 2023
difference gap aa jiro marka difference gapkaas maxaa qabanaysa yani su-aal waaye difference gapkaas maxaa qabanaysa waa in qofku yaraan shaqeeyey shaqada nooceed ha ahaato qasab maa in fildiga ay la xiriirto waa in shaqo uun aa qabataa shaqada uun ilaa fildiga macalin ahaa daartid waxaa tahaa shaqada nooceed ha ahaato warqad employment cadeyneed kasoo qoro it doesn't matter inaad shaqeyso inaa muhiim ah research proposalka cabdillahi ayaa ka jawaabaya su-aalaha social activity bas i weydiiya shahaadada dugsiga sare meeshay ku qoran tahay natiijadeeda waa gelinaysaa intaa ku baastay hadda mid cusub ay sameeyeen c waxaas iyo xarafay ku qoraan laakiin kuwii hore way ku qorneed wixii kuu qornaa ku qoraysaa waa dooranaysaa meesha ka dooranaysaa grading systemka ka dooranaysaa ma saameynayso saameyn makuu lahan yacni haddaa shaqaysid in scholarshipka ay saameyn makuu lahan yacni shaqada waa ka tagi kartaa hadhow interview lagu weydiinaa inaad shaqada yacni paid leave aa helaysid inaa heleynin interview ku sheegi kartaa it doesn't matter wax saameyn makuu lahan su-aalahan gadaala ka dhiganaynaa arday saaxiibkii kalaa ku xigsan waxyaaba muhiim ka hadlaayo ardaydaas weydiiya waa mahadsantihiin wixii social activity in su-aalaha commenti kusoo qora insha allah استاذ محمد راجع هذا ما صنتهاي كان هذا لنا مركان حقصوا لي بين استاذ مهد محمد مهد محمود استاذ مهد حاليا نناقشه Saudara ku maqlaa Dr. Ali Habib Muslim Faisal hadda si fiican ma ii maqlaa ها استاذي اوكي واي waayahay waxaan isku dayan doonaa inaan screen share sameeyo hadday macquul tahay si fiican ula arkaa mase اوكي والله اركز screenka اوكي اوكي والله اركز نظيف واي okay waayahay akhyaarta aad u mahadsan yihiin runtii si wanaagsan ay u sharaxeen wixii macluumaadana waa ay dhammaystireen ustaad Abdullaahi Maxamed Raage dhalinyaradii aad ku firfircoonay tinkaada aan wada baxnana ka mid ah meesha hadda ay tageen iyo jaamacadaha ay ku beereen runtii aad uga dhex muuqda intaas bacdigeed waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ustaad Jamaaludiin iyo madasha horyar runtii oo shaqadan sida silqaanka u qabatay intaas kadib magacaygu waa mahad maxamed cabdiraxmaan dhalinyaro sanadkan barnaamijka ku guuleysatay ka mid ah aniga asxaabta iyo saaxiibada kale waxaan isleeyahay armaad isku didaal ahaydeen oo aad soo wada jamhadaysan laakiin waxaa si gaar igu dheer inaan tiimkii sanadkii ka horreeyay barnaamijkan inta codsaday meel dhexa kusoo haray inaan ku jiro marka khibradii waa aragnimada xoogaa waa sibay igu sii yaro badan tahay wixii su-aalaha waa ka wada jawaabi doonaa insha allah marka waxaan rabaa inaan aniga aan wajigayga kusoo koobo maxay yihiin waxyaabaha qaladaadka ama muuqda waaweyn ee qofku la dareemi karo ama ilma aragtada ah ee keeni karo qofku inuu programkiisa ama programkan uusan ku haro oo uusan ku guuleysan ama applicationkiisa aan lasoo xulan oo meel dhexa soo gaarin ama haddii lasoo xusho dib laga diido marka wixii aniga khibradeyda ahaa iyo wixa si guud common ardayda uga dhex dhacda rabaa inaan idinla wadaago marka si toos u gudagalo programkan sida inta badan la sheegay waxa waaye khayrta inta badan ka jawaabtay oo aad u sharaxday waxaan rabaa inaan isdul taago waxyaabaha inta badan keena dhalinyarada inay scholarshipkan cilada ka keena waxay tahay marka koowaad scholarshipkan waa inaad fahantaa qofka waxaa lagu siiyaa ama
ay daneeyaan nimankaani ama dowladda Turkigu qofka mustaqbalka hami hogaamineed leh meesha uu ku biiri doono ama ha noqoto private sector ama ha noqoto public sector wax ka goyn doona waxa ay daneynayaan waxay tahay qof deegaankiisa iyo dalka uu ka imaaday wax kusoo kordhin doona ayagana khibrad iyo aqoon kala laaban doona oo markay ugu yaraato wixii ayagu ay soo bareen ku shaqeyn doona waana ognahay qofku waay waxaan programkan marka hore u raadinaya waxay tahay deegaanka uu ku nool yahay ama waddanka uu ku nool yahay sourceska aqooneed ee uu ka haysto ama uu ka heli karo inay aad uga kooban yihiin marka sidaa darteed wuxuu u baahan yahay inuu waxa uu raadinayo ama waxa u baahan yahay inuu meel kastoo ka heli karo inuu raadiyo sidaa darteed waa inaa marka tahay ma lagaa dhex aqrisan karaa qof waxaan u jajaban oo diyaar wa marka aan si gaar u dul istaago qodobka koowaad oo inta badan programkan dhalinyaradu ay ka fahanta waxay tahay ama keena inay ku haraan waxay tahay qofka marka koowaad waxaan wuxuu u fahmayaa scholarship free 100% waxbarasho bilaash ah nolol bilaash ah kabacdin qofku iska aadayo waxa ogaataan inaysan programku sidaas aysan ahayn waxbarashadu waa bilaash noloshu waa bilaash laakiin dadaal baa lagaa rabaa meeshan markaa imaatid waxaa lagaa rabaa waqtigaaga 24 saac oo kamid ah inaad ka qorshaysatid aad qaybna waxbarasho siisid qaybna nafsadaada iyo wixii kaloo dalkan aa u maatay oo aad ka faa'iidaysan karto fursado dheeraad aad uga faa'iidaystid qaybta soo hartayna inaad adiga isku hormarisid oo wixii galaaska aad u xaadiraysid waxbarashada galaaska aad u xaadiraysid waxa aad kasoo fahantay iyo waxa dheeraadka waa inaad sii raastaa marka waa isdhisid nafsiyeed waayo marka maaha wax qofku sida gurigiisa sirritiisa isagoo joogo oo kale marka fikradda caynkaas oo kale qofka haddii uu ka haysto waxyaabaha qofka inuu harag keeno oo kale oo kamid ah qaladaadka koowaad aan tirinaynaa qaladaadka labaad qaybta koowaad oo kale ayaan ka bixina waxyaabaha qofka inuu programkan ku haro ama ku guuldareysto keeno waxaa kamid ah oo fahamka programkan ku aadan qofku marka dokumentiyada iyo waxyaabahaas oo kale uu samaysanayo inta badan waxaa cilad ka haysta u wajaha waxay tahay xirfad hogaamineed ma muujiyo qofkan xirfad hogaamineed ma muujiyo tusaale qofkan wuxuu sameynayaa inuu xilligan uu dooranayo kale ama programkan uu codsanayo kale asaga kartidiisa iyo capacitigiisa ma muujiyo waxa uu ku darsaday waxa uu kusoo dadka kordhi karo ama waxa uu at least contribution ku samayn karo ma muujiyo marka taas waxay keentaa qofku inuu uu haro oo aan loo arkin qofkan inuu qof waxaan ka dhex noqdo xilligan aan laga dhex akhrisan karin inuu noqdo marka waxyaabaha kale oo fahmiyada qofka keena waxaa kamid ah ama dhalinyarada programyada applicationkooda hoos u dhiga qofkaani marka uu letter of intent qorayo ama marka uu isaguna sidiisa iska hadlayo vision dheer male ujeedo dheer ama ujeedo uu programkan uu ka damacsan yahay qofkaani ma caddeeyo micnaha qofkaani waxaa rabaa dadkan waxay rabaa inay kaa dhex akhristaan qofkaani inuu yahay qof professional iyo leadership ahaan dhisan inuu yahay oo raba waxaan rabaa in baahidaas ay ugu keento waxaan inaa codsado halkan waxaan u aadayaa sababtaas darteed waxaan rabaa markaan waxa aan soo barto inaan waxaan iyo waxaan ciladan ama dhibaatadan deegaanka iyo ama dalkayga ka jirta inaan wax ka bedelo qofkaas marka waa qof barbos dheer waa qof fishil waa qof aragtidiisu ay cad tahay waa qof marka dhisan oo la dhihi karo qofkan in la maal gashto u baahan yahay ama mudan yahay sidaas oo kale waxyaabaha qaladka ugu weyn oo inta badan dhalinyarada keena inay haraan ama applicationadu aysan soo bixin waxaa kamid ah qofku inuu marka uu doorashooyinka sameynayo ama jaamacadaha uu doorashooyinka sameynayo ama faldhigyada uu doorasho ka sameynayo inuusan waxyaaba aan saxiixin u doorto micnaheedu waxaa loola jeedaa tusaale matalan qofkan kale wuxuu baranaya kasoo qaado kaleba idaara lacaan uu baranaya public administration qofkan kasoo baxay baajkiisa master ahaan wuxuu codsanayaa engineering waa irrelevant wax aan xiriir la lahayn iska agdhoweyn waayo academically shaqaan isku lahayn subject ahaana aan wax shaqaa isku lahayn waxa waaye waa in qofku marka uu filliga dooranayo at least 75% 80% waa inay ismaaj garayaan curriculumkaaga waxa aa soo dhigatay iyo waxa aa dhigan doontid iskoolaa kasoo baxday primary hadda kasoo secondary hadda kasoo baxday back baarta inaa codsatid almost maada scientific aa codsanaysaa ama engineering rabta inaa baratid ama science rabta inaa baratid maadooyinka related ka la ah aad ugu hooseysaa natiijadaada maadooyinka physics math biology chemistry darajo ahaan cilcisaan waxaa haysataa wax 50 ku siman ama 51 oo kale
deedna civil engineering aragta inaad baratid ama waxaa aragta inaad baratid electrical engineering waa something aan reer in lagu qaato oo aad fursadaas kusoo baxdid marka waa in qofku waxaan wax isla xiriir waa inay yihiin sidoo kale filiyada marka qofku dokumentiyada iyo waxyaabahaas kale marka uu qoraayo waxaan waa in wax ka dhexaysiiyaan academic related waa inay jiraan ama academic linkage waa inay jiraan wax isku xiraayo waxaan uu kasoo baxay ama waxaan uu ku fiican yahay ama waxaan uu yaqaano iyo waxa uu baranayo history geography aad ugu fiican tahay then maadooyinka social science aad ugu fiican waa baran doontaa way ku sahlan tahay inaad baratid marka waa soo gaagaamin doonaa maadaama taymka aad inoo hayo waxyaabaha kale ee dhalinyarada keena inay ku haraan waxaa kamid ah ama mistake ahaan aad u reeba qofkaani career goalkiisu aad ay daciif u yihiin micnaha mustaqbalka waxyaabaha uu rabo inuu barto ama u qorshaysan aad u yihiin laba qodob way isugu jiraan tusaale qofkaani ahdaaf wuxuu degsanaya tu generaala tusaale wuxuu leeyahay kaba soo qaado kale waxaa rabaa waddankayga inaa caawiyo waddankaaga inaa caawisid waa hadaf way tahay laakiin waa tu general waddankaaga aad u ballaaran yahay adiga shaksi waa waddankaaga ka tahay waddankayga inaa caawiyaan rabaa hadaf weyn oo aan ku meelmari kartid male maaha sidoo kale inuu noqdo hadafkiisu self focus wax asaga gaar shakhsiyadiisa bas tilmaamayo oo aan faa'iido kale deegaankiisa ama dalkiisa uu ku helayo aysan hayn tusaale shaqo fiican inaan ku helaa rabaa filligan waxaan aan baranayo turkiga sababta aan usoo aado waxay tahay filligan aan rabaa IR aan rabaa inaad barto public administration aan rabaa political science aan rabaa inaad barto medicine baan rabaa inaad barto public health aan rabaa inaad barto waa inaan shaqo fiican ku helaa rabaa mushaar fiican qaadanayo waa self focus marka deegaankaaga baahidiisa iyo dalkaaga baahidiisa iyo waddankaana wax ka baranaysid ahdaafta adiga uu kugu maalgasho lahaa oo meesha ka baxday marka waa inaad tirahdaa waxaan baranayaa public administration why sababtoo ah cilada deegaankayga ama dalkayga ka jirta 30 sano dowladnimadeedii ama systemkaygu qariban yahay dhibaatada haysataa maxay tahay dowladnimadeenu kama dhisna aas-aaska meesha la rabo in wax laga soo bilaabo waa consulka ba cilad naga haysataa haddii consulka cilad naga haysato madaxtinimada dalka ee u sarreysa ee madaxweyne u sarreeyo waxba ma qaban karo sabab marka dowladnimada la dhisaya laba ahdaaf loo dhisaa ama laba qaab baa loo dhisaa in basic laga bilaabo oo topka la geeyo ama in topka laga soo bilaabo oo bottomka loo imaado topka waxa kasoo bilaabi kartaa oo bottomka imaan kartaa marka asliyan ba u diyaarsan tahay inaad aad dabaqdid ama hoos ay ka dhisan tahay dowladnimadeeda dalkaygu muddo bay dhibaato ku jirtay deegaan kasta oo dalkaygu ama dadkaygu ay degaan cilada fahamka qaldan oo dadka haystaan maxay tahay inuusan nidaamkan dowliga usan sidaa u dhisnayn in dowladnimadeenu ay tahay aysan ahayn e-government system ciladahaas oo kale basically wax future cayiman oo baahi ah xalinaysa waa inay ku tahay dalkaagun wax uu kaa faa'iidaya waa inay jirtaa marka qaladaadka dhalinyaradu ay inta badan aadka u galaan waxaa ka mid a qofku inta badan aad iskuma diyaarsho muddo hadda 15 beri hadda programkan uu furan yahay almost hadda waxaa hartay haddaan qiyaaso waa 25 beri oo kale 40 beri waa almost furnaada maalin kasta oo kamid ah waa inay qofku hadaf u degsan yahay hadaf waa inuu degsan yahay waxyaabaha inta badan heerankii hore oo aan programkan aan ku guuleysan karin waxaa kamid ah waqtigan xisaabshay waxaan arkay 40 beri inay tahay programka laga rabo inuu wax 10 daqiiqo qaadanayo inay tahay 4 xafiisood ama 4 meelood inaan dokumentiyada uga baahanahay dena waa isla waqtigii wuxuu ku soo aruuray inaan shaqooyinka qaar aan istaag ku qabto oo anoo xitaa socdo sometimes aan dokumentiyada meelaha qaar oo kale aan buuxo marka qofku inuusan aad isku diyaarin taas maxay keeni kartaa qofku inuu dokumentiyada qaab rasha ku xareeyo tusaale degdeg ah oo aan waxyaabo badan ku kala iloobo waxyaabo badan aysan isku dul saarnaan waxa waaye uusan wax badan sixin waxa waaye mararka qaar laga yaabo CV-gii iyo waxyaabihii uu hagaajisan lahaa inuusan aad u diyaarsan sometimes waxaa dhici karta oo kale xitaa kasoo qaado kale maadaama qofkan uu degdegsan yahay recommendationska inay noqdaan kuwa week oo qofku macalin buu jaamacad buu kasoo qoranaya waqti recommendation ama school buu kasoo qoranaya inuu kuwa generalka ah ee dokumentiyada admissionada xafiisyada isaga jira inuu soo qaato ardaygan schoolka inuu ka baxay jaamacadda inuu ka baxay kulliyadaas ka baxay departmentkaas ka baxay ama sanadkaas oo kale intuu yibis waa wax aad u weyn u ah oo aan diyaarsanayn oo qofka qolada documentigaaga qiimeynaysa inta badan u tilmaamaya ama tusinaya inuusan ahayn qofkii perfect ku ahaa waxaan siinayo ama referencega oo kale qofkaani documentiyadiisa maadaama uu degdegsan yahay waxaa laga yaabaa macluumaadka qofkan macalinka documentiga kuu qoraya recommendation letter kuu qoraya ama maamulka kuu qoraya inuusan
uusan si gaar u caddeyn xiriirka labadii ka dhexeeya muxuu yahay oo masarkiisu miyaa macalinkiisu miyaa project miyay wada fuliyeen waxaan kaasoo kale ah qaladaadka kale ee dhalinyaradu inta badan ay keenaan ama keena inay soo haran waxaa ka mid ah letter of entity ama motivation letter ama warqadda looga jawaabo su-aasha ah waayo programkan u doonaysaa inta badan kama jawaaban si saxan uma qoran sacadulahi baa aad uga hadlay warqadaha marka warqadaas oo kale la qoraayo dhalinyaradu laba qaybood bay u qoraan marka koowaad inay wax koobi ay ku sameeyaan oo intay dad kale kasoo qaataan ay macluumaadkooda dad kale ku buuxiyaan ama inay tooda ay ayagu gaarkooda u qoraan laakiin ay ka dhigaan too emotional waxaane dhibaatadan ay haysata waxaan ku noolaa saddexda waqti hal waqti keliya aan wax cunaa waxbarashada marka dalka la yiraahdo aad wax ma fiicin wax caynkaas oo kale macnaha something oo qofka akhrisanaya uu is dhihi karo dee qofkaani maaha wuxuu u socdaa waxbarasho iyo naftiisa dhisay waa inuu nolol kala raadiya ama sheeko personal story aad dhiibli u ah oo ka baxsan xayndaabka akademiga ka baxsan qofka inuu galo ama waxaan example aan sax ahayn inuu qofku adeegsado oo kale marka waxyaabahaas kale qaladaadka keena oo kale ka mid ah kaliya waa inaad ka jawaabta adiga waay waxaan adiga aad u doonaysaa cidda adiga aad tahay programkan sababta muhiimka kugu yahay maxay tahay filliga adiga hadda aad baratay muxuu ku taraya adiga filliga hadda aad baratay waay u dooratay hadda ka aad usii socotid maxaa u dooranaysaa dalkan inaad wax u baratid maxaa kugu khasbaya haddii aad soo laabatid maxaa qabsan doontaa waxaankaas kale waa inaad ugu jawaabtaa qaladaad kale dhalinyarada inta badan ay galaan oo kale waxaa ka mid ah su-aalaha laga jawaabayo marka dokumentiyada la buuxinayo ama marka boorta la buuxinayo marka research la sameynayo qofka inuu meelo kale kasoo kordhiyo usan asagoo wax naftiisa uusan qorin ama inuu isku ekaysiiyo su-aalaha tusaale su-aalaha waxaa laga yaabaa marka akhrinis inay isku mid ku noqdaan laakiin deeply way kala duwan yihiin macnaha ay ka jawaab ka turjumayaan iyo wax ay ka hadlayaan aad u kala fogyiin waa inaad fahamsan tahay oo aad su-aal kasta pointiga ay kaala hadlayso wax related la ah waa inaad uga jawaabi kartaa haddii aad sidaas samaysid maxay caddaynaysaa dadka dokumentigaaga akhrisanaya inay ku arkaan qofkaan si deeply u fakerin ama dadaal badan ba aan bixin inkaas oo kale inay ku arkaan waxyaabaha kale inta badan qaladaadka dhalinyarada ay galaan waxaa ka mid ah cv-ga oo kale marka la qorayo ustaad maxamed raaga aad uga hadlay cv-gu inuu mar walba noqdo mid related la ah waxa adiga aad marxaladaada academically ama waxbarasho ahaan inuu noqdo wax oo adiga ku muujinaya qiimaanimadaada qofka wax muujinaya cv-ga maxaa lagaaga baahan yahay qofku uma baahna inuu ku caddeeyo wax asaga personally ka baxsan xitaabkiisa academica family statuskaaga muhiim uma aha ayaga sometimes age-ka xitaa muhiim uma aha maadaama portalka aad kusoo qori doontid personal income-kaaga muhiimka uma aha cv-ga waxaa lagaaga baahan yahay inay ka dhex muuqdaan waxay tahay strong academically caynka aad tahay sida adiga aad tahay leadershipnimada adiga aad leedahay trainingska iyo volunteers howlaha aad soo samaysay inta aqoon ama waxbarasho ama shahaado adiga aad haysatid xirfadaada qoraaleed iyo xirfadaada faham ahaan filligan aad baranaysid inta ay gaarsiisan tahay examiska aad soo gashay ama waxyaabaha tijaabooyinka aad soo samaysay iyo meelaha aad ka gaartay wax inkaas oo kale lagaaga baahan yahay marka mar walbana nimankan waxay aad dhalinyarada tiimkan aad u daneeyaan ama dalkan aad u daneeya waxay tahay qofkani ilaa iyo intee buu ka qayb qaatay program volunteer ah ama leadership IT baa kasoo baxday science kasoo baxday social science soo baratay haddana ma iskoolkaaga inta aad dhiganaysay activity ma dhaqmo jaamacadaada inta aad joogtay activity ma samayn that means waxay keenaysaa qofkan inuusan ahayn qof bulshaawiya oo dadka dhex geli doona oo waxaan uu bartay beri ka maalin u shaqayn kara ama dadka ka geli kara ama wax kusoo kordhin kara caynkaas oo kale ah marka inaysan aadan ka maqnayn oo ay ku cadaataa waxyaabaha kale inta badan cv-ga marka la qorayo sayidka aad u sheegay Eurobus is very important wax la midana waa adeegsan kartaa laakiin inta badan academic cv is very important asaga la tarkiiso marka kuwa kale loo eego Eurobuska isticmaala sabab waa standard wuxuu keeni karaa dokumentiyadaada inuu qofku si fiican loo fahmo qaladaadka inta badan dhalinyaradu ay galaan oo kale warqadda recommendationka dib aan ugu soo laabano qaladaadka ay galaan dhalinyaradu waxaa ka mid ah qofka inuu ereyga asagoo isku wada mid u adeegsado ama ChatGPT ha ka keeno ama nafsadiisa ha u qorto ama cid kale ha usoo qortay inuu wax generated ah eriyo macnaha laga badbadsho oo aan kuwii saxda ahaan ee asaga ka turjumaya aansan ahayn inuu qorto tusaale kaba soo qaado kale qofka recommendation kuu soo qoray maaha qofkii adiga saxda ku ahaa
adiga kuma maajgaranaya qofkaani si toos ah kuma yaqaano ama waxa laga yaabaa erayadan adiga aad qoranayso kaba soo qaado kaleba inay aad u kooban yihiin ama ay aad u ballaaran yihiin oo mawduucii la rabay inay ka hadlaan inaysan ka hadlin shakhsiyadaada inaysan ku muuqan meeshaan waqada recommendationka marka uu qof kuu qorayo ku yaqaan xiriirinka dhexe ee waxa aad wada qabateen ama macnay kuu soo hada ama shaqo booska kuu soo ahaaday wuxuu cadeynayaa ama uu muujinayaa characteriska adiga aad leedahay leadership skillka adiga aad leedahay waxyaabahaas uu cadeynaya warqad recommendation letter marka la qorayo sidee loo qoraa qofku waa inuu marka koowaad cadeeyaa labadiina xiriirka idinka dhexeeya macalinkaaga ma yaha shaqaale miyaa u ahay meel ma ka wada shaqayseen program yaa furnayseen ko laba waa inuu qofkaani uu cadeeyaa waxyaabaha aad wada qabanayseen sida ay ahaayeen natiijada resultiga waxaad wada qabanay arday waa kaalintu geli jiray caynkaas waa sidaas oo kale waa inuu haddana intaas kadib cadeeyaa achievementiga adiga aad samaysay inta labadiina aad wada joogteen ama aad wada macaamilayseen waxaa achievementi adiga aad samaysay saddex waa inuu ka hadlaa qofkaani maxaa astaamo gaar ah adiga aad dadka uga duwan aad leedahay maxay yihiin qofkaani markii shaqada lagu wada jiro waa qof dhiifoon shaqeeya aan daalin nasan waxa waaye ilaa shaqada resultiga laga gaaro achievement fiican ay dhasho aan seexan fasax badan qaadan waxa waaye isku daya mar walba aragti cusub iyo hal-abuur cusub inuu keeno wax inkaas oo kale waa inuu ka turjumaa ma qaybta ugu dambeysa waa inuu qofkan muxuu adiga si gaar ah ugu taageeraya waxaan ugu taageeraya qofkan meesha uu tago inuu xiro oo la fududeeyo qoladii uu ku biiro waxaan u cadeynayaa inuu yahay qofkani qof hawlkara ee wax kusoo kordhinaya jaamacaddii uu ku biirina aqoon fiicanna ka qaadan doona activitiga ka dhex dhacana qayb ka noqon doona isbedelna ku sameyn doona waana qof inta badan environment kasta uu tago la qabsan kara wax intaas oo kale waa inay ka dhex muuqdaan recommendationkaaga aysan ahayn kuwa iska generaalka oo dadka laga soo qaado haddii marka taas aysan ahayn recommendation letterkaaga generative letter ay tahay waxay caddeynaysaa qofkani qof ku yaqaana maaha micnaha haddaan soo koobo soomaalida waxay tirahdaa waa micnaha recommendation letterka wuxuu taagan yahay waa soomaali baan nahay waa odan dhaqameedkaagii oo kale odan dhaqameedka doorkiisu muxuu yahay ama qofkani qofka wakiilka ka muxuu yahay qofkani waa qof la yaqaano oo dadkeena ah oo reeraha iyaga ah annagaa naqaan wixii mas-uula kaaga soo aada annagaa qaadanayno kale waa marka qofka recommendation letterka ku qoraya caynkaas oo kale waa haddii uusan ku oran qofkani annagaa mas-uulka ah waxaanu la soo qabanay waxaanu galaa waxaanu ugu gudaa micnaheedu dadka dambe kuma qaadan doonaan ilaa moogtahay reference ma lihid marka caynkaas oo kale loo jeeda waxyaabaha inta badan ay xaladaadka dhalinyarada ay sameeyaan maxaa ka mid a qofku dokumentiyadiisu inaysan correlated isla aysan ahayn dokumentiyo saxa inaysan ama dokumentiyo la xiriirin ama dokumentiyo inta badan been abuura sometimes inay yihiin oo kale waxyaabo badan oo iskhilaafaad ay ku jiraan taariikhda dhalashada kale waxa kugu qoran soo soo qaado kale portal inaad dhalatay 2006 oo kale ama 7 oo kale xagana waxa kugu qoran CV-gan waxa kugu qoran 2000 iyo labadii inaad score ka baxday kale something unrelated waa marka sidoo kale waa in CV-ga uu sheegayaa micnaha waxyaabo kaba soo qaado kaleba aadan portalka kusoo sheegin weaknesskii marka letter of entity sheegaysay baa marka CV-ga sheegaysay waxay ku yihiin strength ku yihiin marka dood bay gelinaysaa honestigaaga iyo qofkaani accuracy-nimadiisa qofkaani qof ay wax ka go-an yihiin intee uu yahay bay dood gelinaysaa marka waa in CV-gaaga documentiga macluumaadkaaga isla xiriiraan qaladaadka inta badan dhalinyaradu ay galaan waxaa kamid ah qofku muhiim maaha marka documentigan ama qoraalada aad samaynaysa resultka noqoto ama letter of entity noqoto awooddaada luqadeed inaad tijaabisid muhiim baa meesha wax keliya oo adiga lagaga baahan yahay maxay tahay saxnaanshaha xogta adiga aad sheegaysid taasaa muhiima haddii luuqaddu ay culus tahay culays male waxaad samaynaysaa luuqadaada hooyo ku qoro deedna markii fariinta aad rabta inaad gudbisid ay kuu fariisato luuqada kale u tarjuma markaa ama dad caawinaad weydiiso ama tools kale isticmaal laakiin muhiimaddu waa fariinta adiga aad gudbinaysid mala fahmi karaa haddii fariintaadu aad aamintid waxaana tijaabadaada luuqadeed baa laga doonaya kabacdina aad ereyadii saxda ah aadan adeegsan ama aadan tools AI si toos u isticmaasho 100% oo adoo aan wax kala faagareen waxaa keenaysaa qofkan in loo arko fariimaha uu gudbinaya inaysan caddeyn ereyada uu adeegsanaya inaan la akhrin karin la fahmi karin adoo laga yaabo inaad dhahaysid waxaan ahay arday markuu iskoolka ku jiray jaamacadda ama iskoolka ku jiray maalin aan kaalinta koowaad ka bixin waxaa laga yaabaa fariintaada inaan la fahmin ee loo fahmo ama si kala qaldan loo fahmo ama wixii ay gudbinaysaba aansan qofkan uusan kala soo bixin uusan kala soo bixin marka guddigani waxa laga yaabaa dadka qiimeynaya inaysan fariintaada aad fahmin marka awooddaada luuqadeed inaad tijaabisid muhiim ah luuqadaada hooyo ku qoro
markii luuqadaada hooyo aad ku qorto dokumentiyada ay ku fariistaan kabacdi turjuma markaas dib u turjuma qaladaadka kale inta badan dhalinyarada ay galaan intaas ugu waaweyn qaybtan dambe waa interviewga iyo mustaqbalka insha allah waa gaari doontaan waxaa kaloo muhiima jaamacadaha marka la dooranayo qofku nimankan waxay ku dadaalayaan haddii jaamacad English ku baxaysa ama jaamacad Turkiga oo Turku ku baxaysa labadaba haddii aad geshid waxa marka koowaadba sanadka ugu horeeya waxaa qaadan doontaa luuqad Turkiga marka jaamacadaha in qofka analyze ku sameeyo magaalooyinka inta badan markuu qofku ardaydu jaamacadaha dooranayaan inta badan waxay ku dadaalaan inay caasimadda isku shubaan ama Istanbul isku shubaan marka 12 chance baa haysata ardayda masterka PhD ah ama dhammaantoodba abeeradaba qofku marka dhowr option buu haystaa 12kaas choice uu haysto inuu 12 jaamacadood uu ka dhigto waa fursad laakiin inta badan dhalinyaradu waxay sameeyaan kow inay 12ka chance ba hal jaamacad ka dhigtaan ama 12 fildi oo kala duwan ay dhigtaan ay doortaan ama hal magaalo ay wada doortaan ama Istanbul ama Ankara qofku marka waxa laga dhex aqsanayaa fariintiisu inay tahay qofkan qof waxbarasho u socda inuu ahayn inuu yahay qof dalxiis u socda ama qof waxa uu dooranayo ama uu baranayo isna u cadfin marka waxyaabahaas intaas ugu waaweynaa hadduu alla idmo wixii kala su-aala dhalinyarada aada ugu jawaabi doonaa insha allah waxa waaye waa arki doonaa inaan wixii kala soo laabta asxaabta ustaad maxamed aadan u sharxaya iyo ragga dhalinyarada isxilqaamay fariintan la soo gaarsiiyey waxaan is leeyahay waa su-aalaha waa ka jawaabi doonaa wax kale oo almost oo ii haray male marka aada umahadsantihiin waxaan kusoo gabagabeynayaa programkan ama researchkan marka laga hadlaayo ama marka laga hadlaayo YTP marka laga hadlaayo ama Turkish Bursaline marka laga hadlaayo qofku ardaygu inuu aad smart u yahay muhiim maaha ma fiirinayaan nimankan ma daneynayaan laakiin qofkan waxay fiirinayaan ama ay daneynayaan qofkan ilaa intee bay ka go'an tahay waxaan uu doonayo inuu ka dhaweeyo qofkan xirfadiisa ama skillkiisa muddadii uu wax soo baranayay sidee bay ahayd waxa uu asagu rabo inuu mustaqbalka qabto intee bay gaarsiisan yihiin hadaf ahaan iyo dadaal ahaanba intaasaa laga dhexaansanaya qofkan ka go'naanshihiisa marka aad umahadsantihiin waa inku dheereeyey waa intaasaan kusoo koobayaa aan soo celiyo ustaad Maaludiin waa umaasan tahay ustaad mahad waana kaa mahadcelinaa sida qurux badan aad usoo koobtay intaas su-aalaha gelin waxaa siinayna ustaad Sacdiya iyadana oo kelmada hayso kadibna waxaa u gudbi doonaa qaybta ardayda qofkii rabo inuu su-aal weydiiyo gacanta soo taagi doona insha allah marka ustaad Sacdiya soo dhow السلام عليكم وسلامتين دمانتين مالي مقلع waa lagu qalaa aadan ku maqlaa أنا واحد بدل من شيء قربي وحير هذين بدل أقرأ أنتوا ugu badan saaxiibadii ayaa soo sheegeen bo waxaa jirto hal wax oo muhiim ah oo dhalinyarada badankood aysan ogeyn social mediaha muhiim waay mar walba social mediahaga marka aad xariisanaysid masterka ama bajularka wuxuu doonaha aad scholarship marka xariisanaysid waxaa jiro qayb lagu dhahayo social mediahaga ciwaanadaada kuwa ugu activesan maaragtay soo dhig meeshaas dadkan intay waxaaga aqbalin portalkaaga markay fiiriyaan waxyaabaha ugu hore ay fiirinayaan ay ka mid yihiin social mediaha inaa active tahay iyo inaa active ka ahayn waxyaabahaas waa lagu qiimeynaa oo meelaha ay dadka fiiriyaan waay sidoo kale midda oo luqada ah horta luqada ani se ila tahay wax in cadeen qasab inay tahay uma maleynayay oo ma dhehaysid adi waa dhameeyey ma dhehaysid luqada waxaa dhihi kartaa qayb dhaxaa maraa intermediate meelahaas oo kale ahay wax shahaadana ma haysti haddaa saas dhahdid caadi waaye oo maxaa lahaa shahaado kuguma xujeynayaan midda turkiga luqada turkishka ahna maaragtay horta muhiim waaye inaad dhahdid xitaa wax yar way ii bilaaban tahay way fiican tahay oo aad dhahdid haddii oo way kuweydiinayaan su-aalaa sii raacsiisan ilaa intee taqaanaa bilowaa ayaa leedahay hadhow maxaa ku leeyihiin intee ka baratay ama see u baratay ama waxaa leedahay musalsaladooda daabadaa ama si kale qaab kale oo ani isku baray aa jiraan xaal kale si kale u isticmaalaa jiraan marka social media muhiim waaye dhankaas xooga hala saara asne tusaale ahaan twitterka facebooka iyo skype iyo linkedin afartaasay ku weydiinayaan oo maleynaa
afartaas adi labo ka mid ah ama hal ka mid ah haddaa active ka tahay way fiican tahay. midda jaamacadaha ahne xitaa waxaa jiraan waxay ku kala xiran tahay waxaad dooranaysid departmentiga aad dooranaysid. kuwa qaar waxaa jiraan oo hal option ama labo option bas u furan iyo saddex option ka badan aysan dooran karin. kuwa qaar waxaa jiraan oo 12 u furan. kuwa waxaa jiraan afar camal kuwa hal. marka haddaa adi hal option ama labo option ama ka aragtid meeshaada ma ahan in oo qalad ama cilad uu ka jiro meeshaada. waxay ku xiran tahay jaamacad walbo inta oo maxaa lahaye department walbo inta jaamacad ee bixiso optionskooda. tusaale ahaan hadda waxaa jiray wiil oo tiimka anaga nagula guuleysta ka mid ah hal option bas ay lahayd jaamacadiisa midda asu dooranayay. halkaas option oo doortay jaamacadda uu doorto ma soo bixin laakiin jaamacad kale iyagaa ku qoreen asi halkaas option bisa u qorneed meesha option kale uu doorto ma lahayn. marka optionkaas adi aad dooratay haddii oo meeshaas uu ku jirin ama jaamacaddaas ay ku aqbali weyso laakiin iyaga ay ka helaan maxaa lahaye activitieskaagi waxyaabaha ay ka helaan jaamacad kale ayagaa kugu qorayaan ama gobol kale ay kugu qorayaan. marka kaas cabsi iyo waxaas dhankaas iyo idinka galin way iska sahlan tahay. maxaa kale ku daray haa hal mid kalaa jirto. marka interview anaga oo interviewga u soo gudubnay interview markaa kasoo gudubnay kadib haa oo faceka ugu dambeeyay meelahaas aan maraynay waxaa jiray wiil oo tiimka ka mid ah oo bool sameeyey oo lagu kala fiirinayay maxaa lahaye dadka guuleysteen sida waxyaabaha ay ku guuleysteen iyo waxyaabaha u sahlan micnaha wayska u fududeeyay. inta oo ugu badan dadku maxaa lahaye horta GPska wuu ku jiraa marka qaar oo GPgaaga yar yahay activitieskaaga waxyaabaha lagu dooranaa GPga meel iska dhig. waxaa jirtay hal mid oo soo laalaabatay inta tiimka inta la wada qaatay badankood 95% waa dhihi karaa waxay dhahayeen waa shaqeynaa. marka badanaa waxay qaataan dadka shaqeeyaan haddaadan shaqeynin xitaa haddaa meel maaragtay aad kasoo qaadan kartid warqad oo inaa meeshaas ka shaqeynaysa camal kuwa cadeynaysa maaragtay oo kasoo qaadan kartid way fiican tahay. waxay ku leeyihiin xitaa marka oo shaqada meeshan shaqada u joogtid hadda ka tagtid toos ma ugu tagaysaa mise waa kusoo laabanaysaa. haddaa dhahdid toosa ugu tagaa waa ahaatee waxaa leedahay unpaid leave qaadana macnaha fasaxa qaadana lacag liima siinaayo laakiin markaa soo laabta shaqadii booskiya ka bilaaban karaa. markaas waxay isleeyihiin qofkan shaqo wuu haystaa waxbarasho bas uu u baahan yahay hadduu baxo wuu soo laabanaa horuma u baxaayo. laakiin haddaa dhahdid toosa shaqada ugu soo tagay waxaa waaye tahriib iyo waxaa isku soo diyaarisa waaye si kale uma socotid aa lagu leeyahay. shaqada haddaa ma shaqaysid mooho waxaa samayn kartaa noocee doonta ha ahaato qof aa la xiriiri kartaa waxaa leedahay warqad ii qor oo recommendation ah inaa meeshan ka shaqeeyo oo maxaa lahaye waxaas ii fududeynayso kadibna meeshaasaa gelinaysaa. marka intaasaa idin ku dari lahaani meeshaas oo ugu xil aad waasan tahay saacadii waxay kamid tahay xubnaha memberska ee madasha royaal marka anagana sharafay noo tahay qof madashana kamid ah inuu ku guuleysto scholarshipka oo caawana tiimkan kamid yahay. waxaan rabnaa asxaabta qofkii su-aal qabo gacan soo taagto si uu okay social media activities waxaa waaye tusaale ahaan inaa wax soo dhigtid social mediahaaga mar walba active uu ahaado. mararka qaar waxyaabaha soo bustigareysid mararka qaar mawduuca ka hadashid adi waxay doonta ahaato social mediahaaga ama Facebook lahaaw ama Twitter lahaaw meelahaas in xitaa haddaa hore u samayn jirin waxaa samayn kartaa marka hadda bilaabi kartaa. ani markaa xariisanayay social media active kama aan ahaan jirin mararka qaar wax soo dhigi jirin mararka qaar ma soo dhigi jirin. dadkii ila xareynayeen oo talada isiinayeen waxyaabaha talada isiiyeen ay kamid ahayd waxaa leedahay social mediahaaga inaa mar walba wax soo dhigtid ku dadaal. ana sida markaasaa bilaabay hadwaaba la qabsado mar walba si sax usoo dhigaa marka hadda waa bilaabi kartaa caadi waaye haddaa hore u samayn jirin hadda waa samayn kartaa. midda optionka ahna waxaa waaye macnaha jaamacadaha aad dooranaysa 12 jaamacad aad dooranaysaa 12 jaamacad department walba ma furno. departmentyada qaar hal option bas ay leeyihiin hal jaamacad ama labo jaamacad ama saddex jaamacad bas ay dooran karaan. macnaha departmentigaaga jaamacadaha bixiyaan inay ku yar yihiin meesha laga yaabaa. marka haddii adi oo saddex xaba camal saddex jaamacad bas ee kuliyadda adi aad u baahan tahay ee bixis aa aragtid intaas dooro bas meeshaas uga har
haddii oo maxaa la haye waxa activitieska iyo waxa ay ka helaan ayagaa jaamacad kale kugu qorayaan haddii jaamacadaas kusoo dhiido. asaatiyada aqoonsan tahay waxaan rabaa inaa gacanta u taagan yahay cabdisalaan. cabdisalaan mudid ka qaad please su-aal weydi. ها walaal mii maqashaa waa maasanta cabdisalaan ku socda ku maqlaa. waa mahadsantihiin horta inta nolol dadaaleysiin ana su-aasha qabaan weydiin lahaa waxaa waaye waxa ugu daran horta waxaa waaye markay imaato horta wax concept si fiican aa noo siiseen laakiin how markay imaato hadda CV-ga camal marka arti inaad samaysatid waa baxay applicationkaas Europass-ka kusoo samaysanaya meesha ugu daran cilada ka jirta waxaa waaye markii la joogo research proposalka waxyaalaha lagu qoraa iyo wax dhan waa arkay ina hal research doortaa laakiin how sidee loo qoraa maxaa la sameeyaa application la isticmaalo ma jira macallimiinta ma soo qoraan hadda kasoo qaada ani camal waxaa rabaa inaa xareysto computer science ka soo baxay artificial intelligence ka soo baxay research proposalkaas in oo waxaa rabaa masterka inaa AI xareysto marka AI-gaas bas inuu ku qaabnaado miya hadda kasoo qaad filli kale camal cyber security researchiga oo ka qor haddaa haysto ku xarey karaa see waa sidee loo xarey karaa inaa qaybtaas naga caawisaan oo research proposalka waa mahadsantihiin. waxaa sameyn laba su-aal isku saareyna waqti oo kaban. okay sakariya cali almud samey. madasha horyaal aad u mahadsantihiin. su-aasha qabo waxaa waaye haddii oo markaa oo bachelor degree markaa ani aa haysto oo computer science ah oo markaa masterkii inaa xareysta arrow programming markaa inaa xareysta arrow shahaadadeeda dugsigii sare ee ay tahay tusaalahaan gradekeeda siemens maadooyinka tusaalahaan physics-ka iyo maxaa la lahaa xisaabtan aa aad ugu liito scholarshipkaas hadhow saameyn ma ku yeelan lahaa maxaa la lahaa shahaadada dugsigii sare aad u mahadsantihiin. aad aaminsantiin ustaadi ay ma tii wadnaa su-aalaha mise intana labadan ka jawaabteen. hal oo kala dee lagu soo dari karo sadexda. okay ayay hal gabara ku dareynaa marish gabararkay. okay cabdiraxmaan yunis. waa salaamatiin saaxiib may maqashaa ku soco. aad baa u mahadsan tahay waa saaxiibadana waa mahadnaqaya sida ay programka quruxda badan ee caawa inoogu soo jeediyeen hal su-aalaan qabaa waana soo koobaya mararka qaar bortalka waxaa dhacdo walaale waxyaaba aad xaraysay inay isa soo tuuraan oo ay dib u soo laabtaan baa dhacda marar badan oo dhowr jeer subaxdan ay ugu darnayd taa ciladeedu ma in lagu celceliyo ilaa ugu dambeyd aad ku xaraynayso bay noqonaysaa mise xal kalaa jira haddii bortalka aad ku xaraynayso laptop ugu fiican iyo computer hadaad ku xaraynayso telefoonkiina aad account ku samaysatay waxaa dhacda mararka qaar in uu ku yidhaahdo waxaad gelisay baswir qadan baad gelisay taa ma cilad igu kooban baa mise dadka oo dhan way qabaan aytan in la fahmaan rajeynaya su-aashayda. okay ustaadi jawaab ku bilaaba. sacdullah kaahin hadduu sacdullah kaahin waa usoo laaban doonaa su-aasha u horeysay waa ma qoran cafwan sad waxaan malaynayaa
su-aashii labaad aan ka bilaabo ustaadi waa aadan aad ma nood garisan su-aashii hore. Su-aasha ku saabsanayd su-aasha ku saabsanayd shahaadada secondaryga haddii aad master xareysanaysid almost shahaadadaada secondarygana ay ay darajooyinkoodu grade C ama D ay yihiin. It's not matter right now. Waxaad samayn kartaa ama aad badiil ku ah waa shahaadada bachelor maadaama hadda tan bachelor aad haysatid oo master aad socoto shahaadada kuwaas tan ayaa ka xoog badan ama ka awood badan oo cayimaysa taadii hore. Ayadana marka waa ka aftoomi kartaa dokumentiga related of marka aad qoranaysid ayadaa ku sheegi doonta hadduu alla idmo waa ayaa xilligan u doonaysa ama aad muhiim ugu tahay ama aad ugu fiican tahay iyo kuwii hore sida ku ahayd. Su-aashii hore dib aana loogu socdiyo malaynayaa. Ustaadii aad tools aad u badan baa jira research of letter of intent research proposal kuma sameynaysid laakiin waxa meesha ku yaalla waa afar su'aalood oo kooban. Research dhammaystiran lagama doonayo sida Ustaad Cabdullaahi uu sheegay waa research proposal aad u kooban ardada masterka iyo PhD-ga bas laga doonayaa. Samarka waa in la soo wadaagi doonaa su'aalahana portalka ku qoran inaad uga tegi doontaa dokumentigaaga oo diyaarsan title-kaaga ka hadlaysa IV ID fiigaaga gaabiska sheegi doontaa literature review aad samayn doontaa hadduu alla idmo oo xilligan adiga aad doonaysid ama aad rabtid inaad wax ka qortid cidii hore wax uga qortay then waxaan uga duwan tahay wax ay ku kala duwan yihiin aad sheegi doontaa. Waxaad kaloo samayn doontaa hadduu alla idmo waxaad kaloo samayn doontaa research questionska ama hypothesiskaaga sii dhisanaysaa as a future. Muhiim maaha hadhow inaad mawduucan aad ku qortid marka aad soo laabatid ama la gaaro thesiskaaga la gaaro mawduuca adiga aad doontid adigiisa professorkaaga idinku xiran tahay. Marka waa kaas su-aasha u dambeysay si portalka isa soo tuuraya ustaadii waa inta badan crashkaas waa jira waana maybe waa dadka badan aad ku codsanaya waa marka qaybta sectionka marka aad ka boodaysid waqti badan inaadan ku jirin oo mar walba qaybtan haddii aad xariisid aad ka laabatid waxaan leeyahay waxay keenaysaa in dokumentiga uu kuu sitaysamo dhalinyaro badan aan arkayay waxaa laga yaabaa qofku portalka inuu ama systemka uu ku dhex jiro asagoo aan wax shaqaa ka qabanayn ama aan laga yaaba aan waxba aan dooranayn almost qiyaastii 10 daqiiqo oo kale marka uu update garanaya continue uu ku leeyahay ama leave uu ku leeyahay marka midkii aad dooratid ku xiran tahay qaybta markii aad soo gashid shahaadada ku xaray ama dokumentiga ku xaray ama qoraalka ku qor dadna save de u fakar markaas waxa kala sii aruursa marka su'aalu intaas ay hayno malanaya. Wanaagsan tahay Hamar mida okay oo proposalka research proposalka ku darsana qashara idin siina ani research proposal markaan sameynaya ani ma qorin ChatGPT isticmaal kowraha waxaan leeyahay ChatGPT baa isticmaali kartaa laakiin waxaa la rabaa markaa isticmaalaysid ma aragtay qaab caqliyeysan inaad u isticmaashid mararka qaar waxaa jira system oo soo qabanayo detect gareenayo inaad ChatGPT isticmaashay mararka qaarna ma aqaan inay isticmaalin mishayka laakiin ani markaa xariisanaya su-aashii aa qabtay ChatGPT aa geliyey jawaabta markaa helay dhag waa ku tuuri waana kala wixii kale le ani samaystay intent letterkii waxyaabahaas anaa gooni ahaan qortay laakiin research proposalka ChatGPT waa la isticmaali karaa say ila tahay maadaama ani keyga ay aqbaleen wanaagsan tahay maadaama waqti leed yahay waxaan samayn doonaa hal mar waxaan lahaa qofka su-aashiisa laga tegay sikri inuu dib usoo gacan ku tago si mar kale okay waxaan samaynaa salmaan hadal okay صديق dalmar السلام عليكم ahlan wanaagsan in la maqlaa waxaana odayaal aad u mahadsan yihiin su-aashan qabo waxaa waaye maadaama IELTS nagu adag tahay xaggan laga helin haddii oo wadamada dariska aad in xoogaa lacago kun ku dhinac kaa bixayso Duolingo iyo waxaas marka qofkii ka qaato shahaado ma la aqbalayaa oo ma ku socon kartaa mise sidoo kale si caadi adoo waxaas wadan waa aqaana kaliya inaad dhahdid ma lagu socon karaa
taasaan qabaa. Marka aad waasan tahay salmaan beriis hadduu gacanta ku taagan tahay ama sadiiq maarisha kale tafadal. waa mahadsantihiin walaal saa nagu soo jeediseen topica caawa ani gadaalba ka imaaday inta hore ma joogin laakiin loo su-aala qabaa adinkoo mahadsan su-aasha kowaad waxay tahay mali maqlaa horta ha su-aasha kowaad waxay tahay aniga ma haysti horta mastera u baahanahay inaa xaristo laakiin ma haysti shahaadooyin badan ma haysti laakiin waxaa jiro hadda adaawa dhagtiisa kusoo dhacaya markaa thesis bookga aad diyaarinaya sanadkana jaamacadda ka baxay article website caan ku daawacnay asaga ma iga anfici doonaa oo waxyaalaha la isku qaadanayo ma ka mid tahay tan kale ma shaqeynin haddaa heli karo hadaawana ma maqlay laakiin si fiican ma fahmin anoo shaqeynin haddaa heli karo ma dhihi karaa meeshaasaan kasoo shaqeeya anoo warqad cadaynta wato mase waad iska daba tegi waa mahadsantihiin okay aad waasan tahay waxaan marka ku celinaynaa Zakariya Cali oo su-aal hore na weydiiyey. Zakariya ustaad aad waa mahadsan tahay niyo waa yara bax waxaa computerka waa ka tagay marka I hope in su-aasheeda markaa laga jawaabay soo ma ah ku celiha mar ladaasan. okay niyo su-aasha wax kale ma aha tusaale marka waxaa arday marka computer science dhameeyey okay su-aashaada waa laga jawaabay laakiin dib baa lagu soo xaraa. okay hay si asxaabtaada u gaarsiino qofkii su-aal ka jawaabay ee gacanta hadda jiray idinka horaaliya su-aashiisa looga jawaabay sadiiq qofkan sadiiq iyo salmaan ma hadlayaan dadka gacanta inay taagan tahane waxaad ka furtiin nuudka iska qaada sa u su-aashiina u sheegataan. okay yaa kale haybsada waa xarajeynaya qof ina gacan taagnin gabagabadii maxaa leedihiin ustaad taliyo tusaale. ustaad maxamed raage iyo ustaad cabdullaahi baan ilma soo xiri doonaa laakiin ustaadkaas su-aasha uu la weydiiyey ku saabsanayd duolingaha ustaadii qodobka koowaad oo barnaamijkan inaan ku guulaysato keeni kara waxay tahay xaddiga dokumentiga shahaadooyinka exskillka ama trainingska aan taga qayb gasho aad haysatid waa keeni karta inaad barnaamijka ku guulaysatid weliba meesha adiga aad cudsatid oo dooqaaga koowaad iyo labaad iyo saddexaad ama dooqaaga ugu horeeya inaad ku guulaysatid waxay keenaysaa qofkaani isnaantiisa inta uu dokumenti haysto ama uu shahaado haysto haddii aad webiga haysatid haddii aad haysatid haysatid tawafal haddii aad allied haysatid haddii aad haysatid shahaadooyin u dhigma oo luuqadeed haddii aad haysatid shahaadooyin xirfadeed wax adig aad ka tegaysid male wax kasta oo kusoo darsanaysa maalin haddaad training seminar ka qayb gashay kusoo darso ardada baajka ah oo baajka codsanaya waxaan aad ugu dhiirigelinaya waraaqdaha iskoolkooda ama jaamaca kasoo qaadanayaan soo qaadanaya inay aad usoo badsadaan iskoolkaaga waxaa kasoo qaadanaysaa waraaqdo aad u badan 2 ilaa 3 achievements soo samayso ku saabsan iskoolkaaga inaad kaalmaha u geli jirtay iskoolkaaga activities inaad ka qayb qaadan jirtay kaalmo inaad programyada ardada iyo hogaanadooda waxyaabaha inaad qayb kasoo noqotay akhlaaqiyaadkaaga inaad u fiicnaan lagu abaalmarshay wax caynkaas oo kale ah su-aasha kale oo ku saabsanayd ardayda gabadhaas inay weydiisay ustaadii haddaa heli kartid dokumentigaas oo kale ama warqadahaas oo kale soo samaysan kartid it is very important to you aad u soo qaado waxa waaye muhiimadu waa isku dayga marka waxay keeni kartaa inaad ku guurisid ama aad kusoo baxdid bishardi waa inay related leeyihiin waxaan waxa aad kasoo shaqeynaysid computer engineering aan baranaysaa inaan nurse kasoo shaqeysa is not something related to this field marka waa inay waxaan wax xiriir la leh oo adiga ku caawinaya yihiin programyada iyo waxyaabaha aad sheeganaysidna waa inay yihiin mar walba wax adiga wax kugu daraya dhibic kugu daraya point ku siinaya aysan noqon wax adiga su-aalku kaa keenaya saxnaanshahaada marka waa kaasa wax malaynaya su-aal kale maysan taagneyn su-aalahaas malaynaya labada taagnaa marka wixii kale ustaad sacdiye iyo ustaad cabdullaahi iyo maxamed raage aan u haraya hadday nala joogaan
waxaan rabaa inaan raaciyo idinkoo raalliya marka la qoraayo letter of entity ama marka la qoraayo researchka ama marka la qoraayo erada yana ka laabama letter of entity inta badan dhalinyaradu waxay sameeyaan waxay ku bilaabaan mawduuc aan related la ahayn waxaa la rabaa letter of entity in laga qoro warqadu aad u kooban tahay 3,000 charactera laga rabaa almost waa waxa aad u yar 300 erey ilaa iyo 175 erey aa weer ilaa 300 erey marka waxa laga doonaya waxay tahay inaad marka koowaad aad ku bilowdid wax qofkaan attentionkiisa soo jiidanaya dokumentiyadaada waa la akhrin doonaa muddo 2 bil 3 bil 4 bil ku dhawaad ay haysan doonaan waa lala fakuri doonaa marka waa inaad ku bilowdaa wax related la ah tusaale qofkan waa inuu yiraahdaa baahi waa inuu ka hadlaa ku kaliftay inuu baajka jaamacadda uu bilaabay ama uu u galay waxa ka dambeeyay sababta ka dambeysay waa inuu sheegaa haddii uusan jaamacadda hore u gelin hadda jaamacaddu baranayo marxaladii secondary-ga marka uu ku jiro deegaanka uu ku noolaa waxa iyo xaaladiisa sida ay ahayd waa inuu ka bilaabaa uu sheegaa taas markuu ka hadla kabacdi xilligan marka uu galay ama uu bartay waxa uu ka helay ama uu ka fahmay ama waxa u baxay ee cilmiga kusoo kordha waa inuu sheegaa taas marka uu dhambeeyo bacdeen waa inuu sheegaa activitieska uu ka qayb qaatay muddadii uu waxbaranayay 4 sano jaamacadda dhiganaysay 4 sano haddii uu shahaadadaada ama warqadaada aad kusoo koobtid 4 sano jaamacadda dhiganaya from that date up to that date wax kalena maana qaban waxba kuma tarayso waa inaad 2 3 4 5 6 program oo jaamacadda dhexdeeda 2 3 program oo jaamacadda banaankeeda waa inaad soo sheegtaa بعدين وانا ترى واي تركي ugu doonaysa ama wax ugu doonaysa turki waxaan wax ugu baranayaa xilligan aniga aan doonayo meeshii ehelka uu ahayd ee aqoontiisa ay taalo ee khibradiisa aan ka soo heli karo aan ku noqon karo qofkii laga rabay aqoontan inuu sida ay tahay u qaato waa meeshaas jaamacadaha maxaa u doonaysaa ama jaamacadaha dalkaani ama xilligaani waa tijaabay sameeyeen wayna ku guuleysteen waxaan doonayaa inay cilmigaas u kala ka soo helo marka aad soo laabatid sacdiya sheegtay marka waxaaga filligaaga dhamaysid waxaan rabaa inaad deegaankay ku soo raabtay sidii baahidii aan sheegay ee ahayd 1 iyo 2 iyo 3 inaan wax uga qabto anigoo adeegsanaya khibradii aqoonta deegaanka ka soo helay wax intaas oo kale waa in waxaaga wax sida consultant u yihiin waa inay related yihiin waa inay academically linked wax isku xiran ay yihiin CV-ga marka laga hadlayo qofku waxyaaba muhiim ah oo inta badan oo la rabo inuu qoro uu ka tagaa CV-ga marka ay qoranaysaan oo linkada waa la soo wadaagi doonaa sambalada waa la soo wadaagi doonaa marka la qoranaysaan la CV-ga waliba Europaska ayaa aad in kula talinaya waxaa isticmaashaan inaad mar walba categorieska aad kala qaadaan tusaale dhalinyarada waxay sameeyaan educational background iyo work experience CV-ga intaas ku soo koobaan educational background-kaaga laba usii kala qaado shahaadooyinka aad haysatid iyo jaamacad waxbarashada aad soo martay oo nidaamiga ah work experience-gaaga laba u kala qaado shaqada rasmiga aad soo qabatay iyo skillka iyo internetka aad qayb kasoo noqotay wax inkaasoo kale sida isugu dhilis marka wax yar adoo haysta baa qorsan kartaa fursad fiican haysta laakiin waxaa laga yaabaa qofku inuu kusoo koobo magacii macluumaadkiisa oo dhan inay caruur u joogaan inuu waalid yahay in oo intaasoo sano u jiro in oo iskoolkaas iyo wax something aan asaga wax badan usoo kordhin aada umahadsantiin maxaa dhihi lahaa mataqaaniin CV-ga ma arkino waxaa jiraan dad qaar oo Adobe Illustrator iyo waxyaabahaas isticmaalaan ku samaystaan haddaa mid saas oo kale haysatid Eurobas uma baahnid inaad isticmaashid mar walba waxaa loo baahan yahay bas CV-gaaga inuu maxaa la professional qaab professional camal uu u ekaado uu qurxanaado qofku marka ugu horeyso uu arkaayo maaragtay indhihiis inay soo jiitaan teeda kale CV-ga mar walba waxaadan ka ilaaweynin mataqaanaa reference yuu ka maqnaanin mar walba reference ha lahaado ilaa ugu yaraan 2 3 reference ha kuu lahaado reference maxaa lahaye jaamacadda waxaa kasoo qaadanaysa warqad reference kasoo qaadanaysa marka kasoo qaadatiin waxaa jiro macallimiintiina kuwa kasoo qaadanaysiin waxay leeyihiin macallin walba wuxuu leeyahay email uu leeyahay oo jaamacadda ay siiso oo isticmaalo midkaasaa kasoo qaad isiyaa leedahay ii sheeg macnaa ciwaankaaga ii sheeg meeshaasaa ku qoraysaa marka asaa reference ahaan u isticmaalaysaa mid kamid ah midka ugu sareeyo macalinka meesha joogay kaas oo kale maxaa kusoo haray mida shaqada haddii warqad adi aa soo qaadato maaragtay warqada aa soo qaadato hadii shaabad ee leedahay meesha adi aa kasoo shaqeeya aa dhahday shaabadeeda ee leedahay intaasaa kaa badan iyaga muhiimadooda waxaa waaye inay cadeen arkaan haddii cadeen
isku arkaan oo meeshaas weligaa hadaarta ha kasoo shaqeynin wax ma ka gelin iika inaa hadda iyaga ma ogaan karaan haddane inaa ka shaqeynayso bese u maleeyaan marka saasay u sahlan tahay laakiin ha seexanina dadaalo maxaan lahaye waqtigiin ugu badan geliyo waxaa xooga saartaan boqolkiiba boqol waxaa xoogiin isku geysaa mataqaanin internet letterka internet letterkiina haddee fadhiso si fiicana u diyaarisaan oo maxaan lahaye qofka markuu ugu horeyso markuu arko oo isdhahayo qofkan wuu qalmaa scholarshipka in la siiyo way ku banaan tahay saas camal ha ahaato mid kalaa jirto su-aal kalaa jirto lagu weydiinayo marka oo bartalka adi aa su-aalaha aad buuxinaysid waxaa lagu leeyahay qofaa taqaanid qofaa adi taqaanid ma joogaa turkiya tusaale ahaan walaalka waalidka qof meesha ma joogaa su-aashaas waxaa ka fogaataa haa inaad dhahdid mar walba may dheh sida oo ku cad ytbga waxay sameeyaan qof tusaale ahaan xitaa waxaa lagu leeyahay qof ehelkaaga ka mid ah horuma u guuleystay scholarshipka xitaa hadduu ku guuleystay haa ha dhihin haa maalinkaa dhahdid maxaa waaye sharcigooda qof oo famil walbo qofay ka siiyaan hal qofay ka siiyaan qofkaas haddii mar la siiyo adima helaysid saasuu kugu dhaafaa qof ehel iyo qaraabi iyo meelahaas ii joogaan haddaa dhahdidna haddana way kugu sii adkaanay marka mar walbo su-aalahaaga may ha ahaadaan intaasaan ugu baxaa saacadii aad aqoonsan tahay ustaad maxamed raagi iyo haddii ustaad cabdulaahi hadda wax ku dirisaan aad iyo aad yaa umahadsan tihiin waxaan igaa mahad celinaa ustaad cabdulaahi ustaad mahad ustaad maxamed iyo ustaad sacdiiba sida quruxda badan aad barnaamijkan ugu ajiibteen aad dhalinyarada soomaaliyeed oo aad ugu faa'iidayseen doorkiina iyo scholarshipka waa ku mahadsan tihiin anuu ku hadlaa magaca madasha horyaal ah guddoomiyaha madasha waan igaa mahad celinaa boqolkiiba boqol haddii aad kalama kala dhihin waxyaalaan halkaas kusoo xirno marka barnaamijkeen halkaan ugu xiran yahay waa mahadsan tihiin barnaamijka waxaan soo dhigi doonaa insha allah pejkeena madasha horyaal iyo pejka aan ku leenahay youtube-ka si tiimkii xogta ugu dhaafeen halkaas ugu faa'iidaystaan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum